بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynaya dhamaantiin inaad wada caafimaad qabtaan. Maanta waxaan isku dayaynaa inaan bal safarka yagiisii anba qaadno. Markiinu iska dambeysay waxaan maraynay anagoo soo diyaarinay kow anagoo soo fahamnay dulucda. Horta intaan gelin ka hor dib u laabashadaasi waxaan rabaa dhamaantiin hal mar inaan idiin sheego wax dhamaanteena wada anfacayo oo ah markaad madashan soo gasho ama YouTube-kan channel-kan aad soo gasho ee aad doonayso maadada research-ka inaad wax ka yara fahamto, dhamaantiin waxaan arkaa waxaad ku soo wada orodaan sida loo diyaariyo chapter 1. laakiin intaadan chapter 1 diyaarin waxa ka horeeyo chapter 1 inaad u haysato waxa aad ku diyaarin lahayd oo ah fikir fiican inaad ka haysato maadada research-ka. oo adigoona aqaanin EV waxa la yiraahdo oo adigoon fahamsanayn waxa la yiraahdo IV waxa la yiraahdo unit of analysis waxa la yiraahdo area of study ma aha inaad chapter 1 hore ka daawato. waxyaabaha ardayda ku keenayaan madax wareerka ama wax afka qalaad lagu yiraahdo confuse-ka waxa kamid ah hawshii bay wixii ka bilaabayaan meel weyn. taas marka waxay keenaysaa ardayga inay wixii ku adkaadaan. idan tal ahaan waxaan idinku siinayaa markaad madasha soo gasho soo daawo YouTube-ka cashirka ugu horeeya ah fahamka dulucda, kadib waxaad ku xijisaa dimensionada, kadib chapter 1 markaad daabatid in badan baad ka fahmi doontaa. intaas markaan uga tago tala bixin hore waxaan usoo dhignay ama aan soo wada qaadanay chapter 1, waxaan sidoo kale soo qaadanay chapter 2. waxaan rajeynayaa inay waxun naga caawiyeen. intaas markaan ka tago maanta waxaan bilaabeynaa chapter 3. chapter 3 horta hore wuu ka fudud yahay labadii chapter ee horaan usoo qaadanay. horena waxaan kuugu sheegay maadada research-ka dhammaanteed ama markaad diyaarinayso waxa loo yaqaano ay sheeg daraasadda waxaa ugu adag chapter 1 waxaana ku jira laba qayb oo loo yaqaano background of the study iyo problem statement. labadaas tii haddii aad si camiiqa oo qoto dheer aad u fahamtid, taas waxay keenaysaa inaad mas-uuliyadda daraasadaada inaad adigu qaadaysid. labadaasi haddaad kasoo gudubtid waa labada challenge ama culeys ee ardaygu soo wajihi kara. haddii labadaasi tii aad soo fahamtay oo professorkaaga uu kuu aqbalay oo lagaa qaaday oo lagu yidhi waad sii gudbi kartaa, waxay ka dhigan tahay buuggaaga inta ku hartay waa wax yaroo iska yara fudud. idan marka chapterkaniti fikir ahaan wuu ka fudud yahay marka la dhigayo. chapterkan waxaad ku diyaari kartaa muddo 3 saac ama 4 saac maalintaada dhan haddaad siiso waad diyaarin karaysaa. idan macluumaadka buuggan oo chapter 3gan u wado marka wuu ka gedisan yahay ama way ka yara fudud yihiin marka loo eego labadii chapter aad soo daaftay way ka yara adkaayeen. waayo chapter 2 iyo 1 markaad diyaarinaysa way yara adag yihiin. laakiin fudeedka kan wuxuu ku darsaday xogta ku jirta way ka guda ballaaran tahay labadii xog ee hore usoo dhaaftay. haddaba aan iswaafajino inaad fahamteen isku day. chapter 3 markii la qorayo qoris markii la yiraahdo labadii chapter hore wuu ka fudud yahay. laakiin xog marka la yiraahdo labadii chapter hore kan baa ka xog badan. ma fahamtay marka markii la qorayna wuu fudud yahay laakiin wuu ka xog ballaaran yahay. labadaas chapter way qoridooda way dhib badan tahay laakiin xogta aad labadaas chapter ku soo gudbinaysid way yar tahay. tusaale ahaan waxa jiro xogta aad qoraysid ama buuggaaga macluumaadku xambaarsan yahay waxa loo qaybiyaa laba loo qaybiyaa. midna waxa la yiraahdaa primary data, midna waxa la yiraahdaa secondary data. secondary data maxaa la yiraahdaa marka? secondary data waxa la yiraahdaa maanta arki doonaaye waa xog walba ama macluumaad walba ee buuggaaga aad ku xusto laakiin adigu aadan lahayn oo aad qof kale ka soo qaadatay. secondary data waxaa la yiraahdaa waa macluumaad walba aad cid kale ka soo qaadatay ee adigu aadan lahayn oo aad citation-keeda siisay. مثلا xog baa waxaa ka soo qaadatay TV, waxaad ka soo qaadatay buug, waxaad ka soo qaadatay idaacad, waxaad ka soo qaadatay khudbo, waxaad ka soo qaadatay qof
xogtaasayta buuggaaga aad ku diyaarinaysa waxaa loo yaqaanaa secondary data, cid kalaa iska leh. Primary datana waxaa la yidhahdaa xogtaada adigu maskaxdaada ka keensatay ama aad juhdigaaga ku bixisay ama aad qarashkaaga ku bixisay aad buuggaaga kusoo bandhigtay. Idan marka labadii jabtari hore waxaa loo yaqaanaa secondary data, xogta ku qoran oo dhan waa xog aad meel kale kasoo qaadatay. Maanta waxaa ku dhammaaday inaad Google Scholar-ka u laabato ee aad wax kasoo qaadato maanta kugu dambeyda chapter 3 marka. Idan marka meeshana waxaan ka gelaynaa marka chapter 3. Chapter 3 marka inta badan wuxuu xooga saarayaa kaliya toolska aad adeegsatay. Magaciisa waxaa la yiraahdaa methodology, waa geli doonaa balse intaan gelin ka hor waxaan qaadanaynaa overview-gana si dhamaystiraya. Wuxuu ka kooban yahay 10 qaab ama 10 qaybood oo ka kooban yahay. 10kaas qaybood waxaa ku sheegi doontaa kaliya yani xogtaada magaceeda, yani methodology-ga adeegsatay, instrument-ga adeegsatay, population-ka wax ka qaadan doonto, waxa loo yaqaan sheeg instrument-ga adeegsatay, quality shaqada ay leedahay daraasadaada, yani limitation-ka waxyaabaha ku xadidaya culayska kugu keenay, procedures-ka adeegsatay, sample-ka adeegsatay, waxyaabahaas aad ku arki doona. Idan marka waxaan rajeynaya marka saacada iyo 2 saac soo aada marka inaan isla wada qaadan doono duu Ilaahay karaan noqdo. Marka sida hore aan ugu heshiinay sidoo kale markaan chapter sheeg book markaan cashirka jeedinaynin 3 qaab aan u jeedinaa. Kow waxaan fahmaynaa horta theory-gaan fahmaynaa, theory-gaan iska dhisaynaa. Markaan fahamno waxa nagala rabo kadib waxaan gelaynaa practical-da. Maanta marka qayb aan u geli doonaa duu Ilaahay karaan noqdo. Bal iigay marka bookgeena hagaha cilmi baarahanagii. Hagaha cilmi baaraha marka tagto page-ka wuxuu ku yaalaa 59 buu ku yaalaa. Page 59 marka waa kan chapter 3, waa chapter-ka 3aad ee daraasadaada. Asigoo qoran waxaad ka eegi kartaa hadaad buugga haysato weeyaan boga 98aad mathalan 98aad waa kana asigoo diyaarsan, qaab ahaan u diyaarsan waa kana marka. Idan marka aan galno marka yani ha ku wareerin, kan waa kan af Soomaali ahaanta ku siinaya weeyaan asoo sambala oo diyaarsan oo buuggaaga saa u diyaar lahayd camalana wuxuu kugu yaalaa page-kaasiti. Bal marka aan theory-ga isla fiirino. Horta chapter-kan 3aad waxaa loo yaqaanaa methodology loo yaqaanaa magaciisa. Methodology-gu marka waxaad ku sheegi doontaa waxyaabaha soo socda oo dhammaantood aan wada qaadan doono 10ka qaybood marka. Wuxuu ku yiri marka waa qaybta 3aad ee buugga taasi oo loo yaqaano ama loogu yeero magaca ah methodology. Goortii uu cilmi baaruhu diyaarinayo chapter-kani waxaa muhiim ah ama looga baahan yahay inuu isticmaalo wax luqadda qalaad loogu yiraahdo simple future tense. Sidoo kale marka tahay ardayda qaar waxaa jirto yani xiisooyin gaar ah qaato oo xaafadahooda loogu tago ama goobo kale loogu tago oo xiisooyin dhameystiran qaata. Iyo sidoo kale adinkaba markaan maadada daraasada bilaabayna waxaan ku heshiinay 3 qaab inaad iska fiirisid. Kow 3 qaab oo ardayga laga doonayo maadada markuu baranayo waxaa weeyaan inaad computer-ka fahamsan tahay, waayo computer-ka hadaadan aqoonin sida loo adeegsado yani word-ka loo isticmaalo, computer-ka loo daaro yani way kugu adkaan doontaa maadada, waayo tool-ka ugu weyn aad adeegsan doonto waa computer. 2 inaad fahamsantahay luqadda English-ka oo aad wax ka fahmi karto, waayo waxa wax ku diyaarin doonto waa luqadda English-ka si aad u kala fahamto waxa ku anfacay iyo waxaan ku anficin. Tan 3aadna waxay tahay inaad waqti geliso maadada. Idan marka hadartan haddii aan ku yiraahdo marka qof aan weligii soo dhigan luqadda English-ka oo kale haddii aan yiraahdo simple future tense waxaa laga yaabaa inuu ku madax wareero. That's why lagu leeyahay marka inaad soo fahamtaa luqadda, inaad fahamsantaa laga rabo marka. Chapter-kan waxaa la yiraahdaa methodology. Markaad diyaarinayso chapter-kan ama cilmi baaraha oo diyaarinaya waxaa la rabaa inuu adeegsado wax loo yaqaan simple future tense. Maanta waad arki doonaa daraasaddaniti buugganiti ama chapter-kaniti wuxuu u qaybsamaa ilaa 7 qaybood, laakiin maanta waxaan gaarsiinay ilaa 7 qayb ilaa 10 qaybood baan gaarsiinaynaa. 7 marka meeshaasi ku qoran xoogaa farta ayaa naga yara boobtay, laakiin waa 10
qayb oo dhammaystiran ama 9 qayb oo dhammaystiran hadbase maanta wada arki doono. qaybtii ugu horeysa marka jabtarka markaa qoraysid ama la qorayaba waxaa marka hore laga rabaa inaad sheegto wax loo yaqaano rigid design. Rigid design maxaa la yiraahdaa? waxaa jiro researchka markaad diyaarinaysid designo kala duwan baa jira. designadaasi kala duwan ba waxaa laga rabaa designkaad adigu qaadanayso ee daraasadaada ay ku fadhido inaad sheegta lagaa doonaya. designadaasi talo maxaa la yiraahdaa marka? bal aan soo fiirino wax yar. buuggan waxaan tegi doonaa bogga 7 aad tegaysaa, buugga hagaha cilmi baaraha haddii aad haysato bogga 7 tag. bogga 7 markaad tagto kor u yara soco, bogga 6 halkan waxaa kugu qoran wax loo yaqaano qorshaha ama danta ama sababta loo sameeyo daraasadaha. daraasadaha markaa sababaha loo sameeyo way badan yihiin. waxa ugu horeeyo daraasad loo yaqaano waxaa jirto exploratory design. yacni si aadan u qasmin waxaan ku idhi markaad daraasada sameynaysid fiiri halkaaniiti waxaad tagtaa pageka 69aad laakiin buugga adigu wuxuu ku yahay 59 buu ku yahay. chapter 1 waxa marka hore laga rabo waxay tahay inaad sheegto rigid design. rigid designka wuxuu yahay hadda waxaan rabnaa marka inaan ogaano waa markaan aadayo pageka 16aad markaan aado ama pageka 6aad markaan aadayo. qorshaha ama daraasadaha sida loo sameeyo waxaa kow ka ah waxaa jirto daraasad loo yaqaano exploratory research jirto waxa daraasad loo yaqaano. exploratory researchku waa daraasad ama sahan loo sameeyo in arrin looga sii qiyaas qaato balse aan dhibaato jirta xalinaynin. ardayda qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin markii buug daraasad la diyaarinayo in kaliya problem lagu xaliyo. inta badan xataa qaarkiin markaad dulucda inaad sheegtaan ama ii sheeg DV-gina aad sheegtaan waxaa leedihiin problem daraasada ma jiro. waxaa jira daraasadaha marka la diyaarinayo problem kaliya laguma xaliyo. hadda daraasada ugu horeyso ee research design-kaanid waxaa loo yaqaanaa exploratory research loo yaqaanaa. waa daraasad ama sahan loo sameeyo in arrin looga qiyaas qaato balse aan dhibaato jirta xalinaynin. daraasadaniiti la sameynayo iyadoo aan dhibaato taagan xalkeeda loo baahnayn balse loo sameynayo maxay arrin soo socoto in looga sii qiyaas qaato. tusaale ahaan bilaha soo socdoo kale waxaa di'i doono roob baa di'i doono, roobkaasoo da weliba haddana xoogan. idan haddii roobkaasi do-o maxaa dhici kara haddii daraasad la sameeyo? ama tusaale ahaan fiiri ardayda caafimaadka kale ama qolooyinka caafimaadka markii daawo lasoo saaro ama kaniin lasoo saaro kaniinkaasiti bulshada looma soo gudbiyo ama shacibka looma soo gudbiyo intaan tijaabo lasoo marin ka hor. that's why marka kaniinigaasiti waxaa loo adeegsanayaa wax loo yaqaano eeyaha iyo bisadaha iyo isheeg dooliga iyo waxa jayinka bini'aadanka soo dhaweeya daanyeerada doofa xayawaanadaasaa loo adeegsanaya. xataa waxaa jiro dad bini'aadan oo ku tabarucay shaqadoodu tahay in daawada jirkooda lagu tijaabiyo. inaad ila fahmaysaan rajeynaya. idan daraasadahaasiti waxaa loo yaqaanaa oo wax looga sii mathalan hadda problem taagan way xalinaysaa oo marka laakiin problemka hadda ma taagnay hadhowaati inaysan dhicina looga sii qiyaas qaadanaya. daraasad walba oo marka waxa looga qiyaas qaadanaya waxaa loo yaqaanaa maxay exploratory research baa loo yaqaanaa. labo waxaa jirta daraasad kale oo loo yaqaano descriptive research loo yaqaanaa. daraasada labaad descriptive research maxaa la yiraahdaa? daraasaddanida descriptive research waa daraasad ama sahan daraasadaasi oo ka jawaabaysa su'aalaha ku saleysan what iyo how talo maxaa ula jeedaa? mathalan su'aal baa isweydiisay oo su'aal haddii daraasadaada ay ka jawaabaysa su'aal noocaani oo kale sidee loo kordhin karaa wax soo saarka shirkad? fiiri sidee loo kordhin karaa waa how soo sax maaha. sidee loo kordhin karaa wax soo saarka shirkad markii aad ka jawaabaysid oo productivity kor loogu qaadaa iyo markaad ka jawaabaysid daraasadaada ay ku saleysan tahay nooc caynkaasiti waxaa loo yaqaanaa maxay descriptive research. sidoo kale wuxuu yidhi
sidee loo kordhin karaa profitability-ga ee shirkadda loo yaqaano Kirby Company, maxaa lagu kordhin karaa wax soo saarka iyo yacni su-aalo noocaasi tia markaad isweydiinayso waxaa loo yaqaanaa descriptive research. marka waxaa jirto sidoo kale yacni designada jiraan kuu sharaxayaa weli. waxaa jira design saddexaad oo loo yaqaano marka analytical iyo explanatory research. tii hore waxay ahayd exploratory tanna explanatory weeyaan. daraasadan iyadana waxay ka jawaabtaa su-aalaha ku saleysan what iyo why. sidoo tusaale ahaan maxaa lagu soo jiidan karaa, yacni maxaa lagu soo jiidan karaa ama lagu qancin karaa macmiilka loona kordhin karaa faa'iidada. yacni sidoo kale su-aal labaad oo ah maxayse yacni u kubci la-dahay shirkadeena. su-aal noocaas haddii la isweydiinayo, su-aalahaas inta badan waxaa la yaqaana analytical, waxbaa la lafagurayaa why waxaan intii loo sameyn waayey taas. marka idan buuggu saddexdaana tusaale kasoo qaadan, laakiin marka la yidhahdo research designku way badan yihiin. collaborative research baa jiro. idan marka adiga iyo designka aad qaadanaysid waa inaad isweydiisaa su-aasha ah yacni daraasadaada su-aasha ay ku fadhido ama macluumaadka guud ay ku fadhido waa maxay. idan markaad taas ogaato kadib waxaa ogaanaysaa designka ay tahay daraasadaada. idan marka aan soo laabana, marka annaga ka design ahaan ama iisheeg tusaale ahaan waxaan qaadanay waxa loo yaqaanay customer satisfaction. waa ciwaanka aan ku shaqaynaynay. hore ciwaan aan usoo qaadan oo ahaa employee satisfaction iyo productivity. idan ciwaankeena guud marka IV-ga wuxuu ahaa employee satisfaction, oo ah qanaacada macmiilka see kor loogu qaadaa si macmiilkaas sida uu usoo saaro productivity fiican. soo sax maahayn. idan marka waxaa ogaanaysaa daraasadeena waxay ku saleysan tahay designka ah descriptive. waayo anaga waxaan baaraynaynaa maxaa kordhin kara customerka macmiilka qanaacadiisa, macmiilkaan dhihinay shaqaalaha qanaacadooda, maxaase kor u qaadi kara waxa loo yaqaano productivity. intaas inaan isla fahmnaa rajeynay. hadda waxaan isla markaan ogaanay designka aan qaadan doono waa descriptive. maxaa ku qaadatay weeyaan, iska qaada maaha. waxa aan ku qaadana waxay tahay in daraasadeena ay ka jawaabi doonto waxa loo yaqaano su-aal ku saleysan what. that's why marka waxaan qaadan doonaa descriptive. aan ku laabano jabtarkeeni saddexaad marka. okay, waxaan sheegnay marka qaybta ugu horeysa fiiri, waxaa sheegi doontaa wax loo yaqaano research designkaaga. hadda research design wax la yirahdo waa soo fahmnay. research designer baa jiro. youtube-ka gal, qadka gal, google-ka gal, adiga soo baar inta design ay jirto, kadib isweydii designka ay daraasadaadu salka ku hayso ama ay ka duuleyso waa maxay. kadibna maxaa sameynaysaa marka designkaada qaadanaysaa. okay, marka aan fiirin research designka marka maxaa nagala doonayaa markaan chapter 3 qorayno. chapter 3 markaa qorayno saddex qaab baa nagala rabaa. waa midkan koowaad iyo midkan labaad iyo midkan saddexaadba. maxaa weeyaa marka wuxuu yidhi research designka waa qaybta koowaad ee jabtarkeena saddexaad ee buugga daraasada, taasi oo lagu soo goobo hal baaragraaf. baaragraafna waa naqaanaa, hal baaragraaf keliya inay ku dhaafta lama rabo. sidoo kalena waxa uu cilmi baaruhu ku xusayaa yacni marka la joogo qaybtan koowaad ee research designka inaad sheegtid designka aad qaadatay. aan isla socono designka aad qaadatay. design maxaa loola jeedaa? waa nooca ama qaabka daraasadada loo marayo in la diyaariyo. daraasadaad markaad diyaarinaysay ma exploratory qaadatay, ma analytic qaadatay, ma descriptive qaadatay, yacni nooca aad qaadatay ayaad marka hore cadaynaysaa oo aad magaciisa sheegaysaa. laba, waxaad sheegaysaa lateral definition ka bixinaysaa. horta lateral definition maxaa la yirahdaa? lateral definition waxaa la yiraahdaa waa qeexitaan inaad ka bixiso, inaad sharaxdo. maxaa la yiraahdaa? exploratory research. tusaale ahaan daraasadaad waxay qaadatay analytical qaadatay. analytical markaad sheegtid oo marka hore noocaaga aad sheegtid kadib waxaad qeexaysaa haddana lateral definition maxaa la yiraahdaa. yacni ahaan waxa loo yaqaano descriptive maxaa la yiraahdaa, ama waxaad qaadatay exploratory maxaa la yiraahdaa. inaad sharaxdo designka aad qaadatay, sharaxadiisa kooban inaad mar labaad bixiso. marka saddexaad waxaad bixinaysaa justification. justification waxa weeyaan inaad cadaysid sababta aad u qaadatay designkaasi. marka hore anagoona qorin qaybtan ugu horeysa, qayb labaad ma u gudbin doono. qaybtan koowaad waxaan sheegnay chapter 3geena markaan qorayno waxaan nagala rabaa inaan qorno wax loo yaqaano research design aan sheegno.
research designka markaan sheegayno kow marka waxaa nagala rabaa designka aan qaadan inaan sheegno kow waan soo aragnay 3 design oo tusaale ah. labo designkan markaan sheegno kadib haddana waan sharxaynaa designkaasi tiin sharxaynaa maxaa la yidhaahdaa waxaas designka aad qaadatay. 3 justification. su-aal labaad aan ku siiya marka designka markaad sharxaysid ama jabtarkan markaad qoraysid waxaad kaaga filan inaad qaadatid yacni buug hore loo qoray ama arday adig kaa horay uu qoray ama google-ka aad kasoo heli kartaa maxay isla designka aad qaadatay design lamid ah. tusaale ahaan jaamacad baad dhigataa, jaamacadaada ama ha ku taalo ii sheeg wadanka gudihiisa ama ha ku taalo wadanka dibadiisa, waxaa jira waxay adeegsataa wax loo yaqaan guideline. guidelinekaas si aadan uga bixin marka waxaa kugu filan marka arday kaa horeeyey ee isla kuliyadaada ah ee jaamacadda aad dhigato inaad weydiisato chapter 3ga asigoo qaata. inta badan chapter 3ga neti ama waxaa ku siinaysa professorkaaga ku siinaya ama waxaa ku siinaya waayo yacni waxaa neti chapter 3 inta badan waxba laguma kala duwana. waxaa laga yaabaa fiiri hal arday adinkoo arday badana oo isla jaamacad isku kuliyad isku fasal dhigta inaa hal chapter 3 isla wada qaataan laakiin waxaa ku kala duwantihiin macluumaad kooban ku kala duwantihiin. ila marka si aad chapter 3gaaga oo mid qurux badan u noqdo waxaad kaalmo weydiisataa macalinka supervisorka adiga ku ah chapter 3 inuu kaa caawin karo weydii. waa fahantaa u malaynaya waayo markaad dooranaysid research designku adigu cilmi fadhiya ma lihid inta badan waxaa laga yaabaa design aan kugu habboonayn inaad qaadatid si aadan marka meelo kale aan ugu dhicin. waxaa qurux badan inaad supervisorkaaga u tagto aad weydiisato tiraahdo iga waayo sababta supervisorka lagugu sameeyay waxay tahay inuu ku caawiyo. okay marka hadda waxaan ku heshiinay research designka waxa la yiraahdo annaga su-aasheena waxaan qaadan doonaa descriptive sababta u qaadanay iyo waxaan qaadan waa isla wada sheegi doonaa. okay waxaad noo furtaa marka hagaha ii sheeg page-keena noo fur. page-keena markaa furto inta noo fur waxaa noogu qortaa wax loo yaqaano folder noo fur. folderka asid waxaa noogu qortaa chapter 3 noogu qor na dhexgeli. markaan dhexgalna kadibna dhexdiisa waxaa nooga sameysaa wax loo yaqaano word nooga sameey waxaa noogu qortaa chapter 3. okay intaas markaa marayno kadibna waxaad sameysaa chapterkeena noo fur marka chapter 3. okay markaan halkaan imaano kadib waxaan sameyneynaa bal gudaha noogee waxaa noo qortaa chapter 3 kadibna hoos waxay ugu qortaa waxa loo yaqaano methodology labadooda bold ii saar farta 10 bold 10 roman nooga dhig cabirka 12 nooga dhig justify noo samee kana 1.5 nooga dhig. okay marka caynkaas u diyaarsano waxaan sameyneynaa wax loo yaqaano marka instructionka waa noo dambeynayaa. marka ugu hore waxaan qoraynaa wax loo yaqaano research design. idan research designka marka horey waxaan kugu sheegay markaad chapter 3 marayso waxaa fiican inaad macalinkaaga ama supervisorkaaga ama qof kale aad weydiisato inuu chapter 3 kaa caawiyo. idan marka laakiin qofkaas waa inuu noqdaa qof aad isku design tihiin yacni qof aad isku gaaldayn ama isku jaamacad aad tihiin. qofka marka haddaad isku jaamacad tihiin waxay kaa saamaxaysaa marka inuu intu design u qaato kale waxaad ka bedelaysaa kaliya waxyaabo yar yar oo kooban ka bedelaysaa. marka idan maanta marka Google Scholar aadayno iyo meel kale aadayno iyo inta badan ma jiri doonto. bal aan fiirino marka chapter 3 markaan joognay halkan waxaan ka soo arnay chapter 3 diyaarsan si aan waqtiga u soo kaabano. idan marka chapter 3 gaan galeynaa waa chapter 3 hore oo diyaarsan weeyaan. waxa ugu horeeya ee nagala doonaya waxay tahay research design aan diyaarino. hore waxaan kugu sheegay marka research designka aan qaadanayno midku uu yahay inaan soo sheegay muxuu ahaa marka waa descriptive. why aan descriptive u qaadanay dhammaanna haddaan isla wada arkayna. okay
internet isoo koobiyey inta noo keen kadib waxay dhahdaa bastayde farta waxaa iga dhigtaa wax loo yaqaano time roman iga dhig inta 12 iga dhig justify is sameey waxa aan sameynayna guideline-kaaga ku amraya guideline-ka jaamacadda haddaad haysato wax badan ayuu ku taraya marka ugu horeyn fiiri descriptive research design descriptive maxaa la yidhaahdaa descriptive waxaa la yidhaahdaa aan ku laabano hal mar aan soo eegnabo waxaa egeysaa pageka 6 egee pageka 6 markaad tagto waxaan kusoo aragnay waxa loo yaqaano descriptive research descriptive markaan sharxayna waxaan aanay waa daraasad inta badan ka jawaabda su'aalaha what iyo how yani arday walba oo i daawanaya ama i arki doona mustaqbalka yani ma qaadan doono wax loo yaqaano descriptive research ma qaadan kariyo descriptive researchka markaad qaadanaysa waxaa waajib ah in daraasadaada ay ka jawaabaysa su'aal noocaani ah what iyo how tusaale ahaan waxaan idhi yani sidee loo kordhin karaa wax soo saarka shirkadda oo kale sidee loo kordhin karaa profitability-ga shirkadda sidee maxaa kordhin kara wax loo yaqaan wax soo saarkeena aniga hadda daraasadda aan qorayna waxaa loo yaqiina maxay waxaan yani ciwaan aan ka bixinayna wax loo yaqaano ii sheeg ciwaankeyga wuxuu ahaa ama ciwaanka marka hore tusaale aan ku bixinayno daraasaddeena ay xambaarsan tahay wuxuu ahaa IV-geyga wuxuu ahaa employee satisfaction and productivity idan marka fiiri labadaneeti hadda waxaan ka jawaabayaa maxaa sare u qaadi karaa shaqaalaha inuu qanco markuu shaqaalaha qancana taasi waxay keenaysaa productivity-ga inuu sare u kaco idan marka fiiri maxaa sare u qaadi kara productivity wax loo yaqaano shaqaalahayna inuu qanco idan waxaan ka jawaabayaa waxa sare u qaadi karo ii sheeg yani qanaacada shaqaalahayna that's why marka waa inaan qaataa descriptive research waayo iidaa ka jawaabayso maxaa sare u qaadi kara waxa loo yaqaana qanaacada shaqaalahayna idan marka waxaan dhahaa marka descriptive research ayaa will be used loo isticmaali doonaa intan waa ogtaa malaya will be waxaan sheegay marka ugu horeeya inaad adeegsan doonto simple future tense aad u adeegsan doonta daraasadaada idan wuxuu yidhi marka descriptive research design ayaan qaatay taasi ayaana loo adeegsan doonaa in lagu lafaguro inta badan ama loo eego correlationka xiriirka inta badan ka dhexeeya dependent variable-ka iyo independent variable-ka iyo sidoo kale inaan soo ururiyo xiriirka ka dhexeeya labadani variable intaas waxaan ku sheegay sababta koowaad oo ahayd buugga igu celi markaad tagto 69 meeshan waxaan sheegnay research design-ka markaan qaadanayno kow in aan sheegi doono design-ka aan qaadanayno design-ka aan qaadanayna ma sheegna haa design-ka aan qaadan doono waxaa loo yaqaanaa descriptive research design aan qaadanay kow design-kaas markaan sheegnay kadib su-aasha labaad ama waxa labaad ee nagala rabo waxay tahay inaan sharaxno waxa loo yaqaano maxay design-ka aan qaadanay sharaxaad inaan ka bixino sharaxaadaan ka bixina maxay tahay marka waxaan dhahnay this type of research design noocaneti aan daraasadeena aan ku qaadanay ama design-kan daraasadeena aan ku isticmaali doono ee aan u dooranay waxaa weeyaan waxaa sababta loo doorto waxay tahay yani weli waxaan sheegaya keliya inaan qaadanay descriptive research intaas keliya descriptive qeexitaankiisa marka halkaanan ka bilaabay wuxuu yidhi this descriptive design is often used inta badan waxaa loo adeegsadaa to investigate in lagu baaro what is inta badan waxaa loo adeegsadaa in lagu baaro waxa yani waxaan sababa yani waxaan maxaa sare u qaadi kara su-aal marba haddii what is ay ka bilaabanayso fiiri waayo waxaan sheegnay IV-gii wuxuu ahaa employee satisfaction iyo productivity idan marka what is the thing ama what's the yani cunsur factors waa maxay factorka sare u qaadi kara employee satisfaction su-aashii maadaama taas ay ku salaysan tahay wuxuu yidhi descriptive researchka sababta u qaata waxay tahay waa inta badan asiga waxaa lagu lafaguraa ama lagu soo saaraa waa maxay waxa sare u qaadi kara maxay ama su-aashaada haddii ku salaysan tahay what is waxaad adeegsan doontaa descriptive design sidoo kale by haddana combining waxay soo aruurinaysaa
labada yacni qorsho ee designka loo soo saaray ah qualitative iyo quantitative. Quantitative-ka waxaa la yidhaahdaa markaad wax soo saaraysa natiijo, natiijadaad sida haddaad u soo saarto qaab xisaab ahaana waxaa loo yaqaanaa maxay? Qualitative aa loo yaqaanaa. Haddaad xisaab ahaan usoo saartana quantitative aa loo adeeyaa. Tusaale ahaan maanta 100 qof ayaad questionnaire ka qaaday. 100kaasi qof haddii 90 qofood oo kamid ah haddii ku siiyaan jawaabo sax ah, hadhow natiijada waxaad dhihi kartaa maanta waxaan dooranay 100 qof 95 kamidana waxayna siiyeen maxay? Ama 90 kamid ah waxayna siiyeen jawaabihii saxda ahaa. Okay, waa markaas xisaab ahaan kusoo saaraysa waxaa loo yaqaanaa maxay? Quantitative aa loo yaqaanaa. Haddii 100 qof anta aan questionnaire ka wada qaadno, interview ka wada qaadno, 100kaasi qofood haddii 90 qofood ay naga anfacday, waxaan warka usoo saarnaa fiiri maanta waxa aan la kulanay mujida, yacni qoraal ahaan aan usoo daabacaya waxaan la kulanay dad gaaraya ilaa iyo 100, yacni marka hadal ahaan waxa u sheegaysana waxaa loo yaqaanaa maxay? Qualitative. Idan marka descriptive design waxay naga caawinaysaa sidoo kale inaan ku soo aroorino xogta quantitative iyo qualitative methodology ahaanba. Sidoo kale descriptive study waxay u shaqeysaa ama ay soo saartaa observational iyo survey method ahaan ay ku soo saartaa iyadoo soo aroorinayso maxay? Daatada. Okay, kan saddexaad ama weyga saddexaad ee nagala rabo wuxuu ahaa justification. Why aan u qaadanay design-kaaniti. Sababta aan u qaadana waxay tahay this method habkaaniti ee descriptive-ka ah is suitable for wuxuu ku habboon yahay the study daraasadda because maxaa yeelay it help wuxuu naga caawinayaa soo aroorinta la large amount cadad fara badan, yacni wax fara badan ama result fara badan inaan ka soo aroorino data anagoo adeegsanayna maxay? Sized population anagoo adeegsanayna. Waxaan sheegnay kow intaanitad waxay ka jawaabayaan waxa loo yaqaano design-ka aan qaadanay. Waayo design-ka aan qaadanay descriptive aa la yidhaahdaa. Descriptive sharaxaadiisana intaanan kusoo koobay. Intaan ka dambeysana waxaa weeyaan justification. Intaasina ila fahantaan rajaynaya. Hadda waxaan ka baxnay qaybta ugu horeyso ee loo yaqaano research design. Qaybta labaad nageli. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa target population. Target population waxaa weeyaan anaga company-ga aan markii hore qaadana wuxuu ahaa Kai company. Waa company-ga tusaalaha aan ku qaadanaynay. Company-gaas tusaalaha ku qaadanayna marka kow waxaan dhahnay bulsha ka shaqeysa ama dad baa ka shaqeeya. Waxaa laga doonayaa dadka ka shaqeynaya ama targetka kuwa ah inaad sheegtid kow. Waa ujeedaa umaleynaya. Wuxuu yidhi marka hore aan sharaxaba waa qaybta xigta ee chapterka saddexaad ee daraasadda taasoo cilmi baaraha uu ku muujinaya sida tan. Kow, target population-ka waxaa laga doonayaa total number of population inaad sheegtid. Waa inta tiro ahaan ay gaarayaan dadka aad doonaysid inaad ka soo qaadato ama aad ka soo ogaato xog. Labo, waxaad sheegaysaa category-gooda. Category waxaa la yidhaahdaa mansabkooda sheegaysaa. Shaqaalaha waxay isugu jiraan soo maaha manager iyo milkiile iyo shaqaale iyo yacni mid walba mansabkiisa sheegaysaa. Sidoo kale waxaad sheegaysaa source. Waayo dadkaaniti mansabkooda meel aad ka soo ogaata baa jira soo maaha. Tusaale ahaan dee adigu arday baa tahay ma ogaan kartid dadkaaniti siday u kala shaqeeyaan. Meelahay ka kala shaqeeyaan. Shaqaday qabtaan. yacni idan qof baa kuu sheegaya oo ku hagaya. Qofkaasi kuu sheegaya inaad sheegta laga rabo ood soo xusto. Target population-ka aan tagna iyadana marka. Isla booggeena aan tagno aan soo qaadana marka. intaan ii soo qaata. Inta markaad ii soo qaato bal aan qurxino kow farta time roman nooga dhig. Fartana waxaa nooga dhigtaa 12 nooga dhig. 12 nooga dhig. Sidoo kale justify way noo tahay. Okay, 1.5 nooga dhig. Okay. waxaa target population-ka fiiri marka. The population targeted population-ka la target gareysanayo ama in la gaaro ay tahay marka waa 61. Anaga 61 kama dhiganayno waa inaan ka bedelnaa. Waxaan ka dhiganaynaa ama tusaale ahaan 61gaas noogu wad. Yani haddaan bedelno
waqti dheer ayna la gelinaysaa. Marka waxaan rabaa waqti kooban, hal saac bar inuu dhaafo, inay xiisada dhaafto ma rabo. Laakiin haddii sambalka waa bedelanaysaa, yacni idin kan ma adeegsanaysid oo midka dhabta ha adeegsan doontaa. Marka populationka la target garaysan doono waa 61 qofood. 61 qofood shirkadda laga target garaysanayana waa Kai Company. Restaurantigan tirtir waa Kai Company. Kai Company waa shirkaddii aan ka soo qaadanayna maxay, tusaalahaan aan ku soo qaadanay Kai Company. Okay, waxay ku taalaa Muqdisho, Soomaaliya ku taalaa. Because maxaa yeelay dadkan sababta u qaadata maxay tahay? Because maxaa yeelay they will be waxay base u yihiin ama asal u yihiin daraasadii asal u yihiin. Sidoo kale provide waxay bixinayaan relevant answers, waxay ku bixinayaan maxay, research questionska. Su'aalahan dadka anaga weydiin doona ama lafagurada aan bixinayno, dadka su'aalaha ku habboon ama jawaab la xiriira bixin kara waxa weeyaan waa shaqaalahanaytii. haddii aniga Kai Company aan wax ka baarayay, Kai Company maxaan ka baarayay, customer-ka maxaa qancin kara si productivity-ga uu sare u kaco. haddii ka waran baa anoo Kai Company wax ka baaraya, haddaan suuqa bakaaraha iska tago ama dugsi quraan aan iska tago, arday aan dugsiga quraanka iska dhiganaya haddaan weydiiyo ka waran su'aalo, suurtagal ma noqonayso, waayo relevant ma aha. idan si aan relevant answers u helo, waa inaan shaqaalaha isla shirkaddii aan wax ka baarayay inay wax ka weydiiyo si aan u ogaado xaaladda dhabta ee meesha ka jira. hadda maxaa noo dhibay marka target population-keena sheegnay, waxaa noo dhibay marka wax loo yaqaano category-gooda aan sheegno. category-gooda maxaa waaye astaantooda iyo meelaha ay ka kala shaqeeyaan. bal aan tagno ii sheeg folderkeena caadiga ah, tabtarjiga aan furo. intaan ii soo qaad, waxaa ii keenta halkan ii keen. category-gooda sanaa u diyaarinaysa iyadana, ma rabo waqti dheer oo naga sii baxo. category-gan waxa waaye table sanaa diyaarinaysaa, waxaa leedahay kan bold iga dhig, kana bold iga dhig, kana bold iga dhig. yacni 61 qofood waxaa leedahay 10 qofood oo kamida waa HRM-ka ka shaqeeyaan, 15 qofood kamida waa operation-ka, waayo shirkadda dhan 61 qofooda ka shaqeeyaanba. kaba soo qaadbo marketing waxaa u ah 12 qofood marketing u yihiin, saleska waxaa u ah 12 qofood u ah, finance-ga waxaa u ah 12 qofood oo finance ahaan u fadhido. waa sambal kaliya. adi marka category-goodan saan oo kale u sheegaysaa. category waxa waa tusaale ahaan inaan kugu siiyo kaliya, haddii afka kaaga sheegi lahaa oo ka tegi lahaa waxaa laga yaabi lahaa inaad yacni isweydiin lahayd. laakiin si aan isku weydiin, category waxaa loo jeedaa mansabka uu leeyahay. Mathalan shirkadda marka laga wada shaqeynayo, 2 qof oo walaalo oo hal shirkad ka shaqeeya, waxaa laga yaabaa midna marketing inuu yahay, midna uu yahay waxa loo yaqaan operation-ka uu ku jiro. operation-ka waxa weeye marka dadka wax soo saarka productivity-ga saameynta ku leh. idan marka anaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay marka, laakiin haddii aad tahay arday finance, haddii aad tahay oo aad ka diyaarinaysid waxa loo yaqaano hadda productivity anaga fiirinaa soo maaha. productivity maadaama ay tahay waxaa xoogga saari doonaa 15 qofood oo 24% waxaan xoogga saari doonaa operationska. sababta xoogga u saaran maxay tahay oo 15 qof u siinay, waayo anaga waxaan ka hadli doonaa productivity. inaad ila fahamto isku day. productivity markaad ka hadlaysid waxaa qasab ah inaad category gooni ah ama astaan gooni xoogga saarto, waayo fiiri productivity-ga saameyn kuma laha ninka finance-ga. yacni waayo ninkan finance kaliya fadhiyaa, rootiga asiga sooma saara, cajiinka asiga ma qasaa, canjeerada asiga ma dubayo. yacni ina ifaantaa rajeynaya jikada ninka ku shaqeeya mashiinka kicinaya waa nimankaniti. haddii aad finance tahay oo aad diyaarinaysid profitability wax ka diyaarinaysid, waxaa xoogga saaraysaa nimankaniti finance-ga. haddii aad marketing tahay oo aad marketing-ka xoogga saaraysid, qoladana xoogga saaraysaa. haddii aad HRM tahay, qoladana xoogga saaraysaa. inaad ila fahamtaa rajeynaya intaas ay tini. waxaa jira cilmigan soo gudbinayno, cilmi ka ballaaran waxaa jira inaad leedahay lagaa rabo, indhergarad inaan creativity wax la yidhaha inaad leedahay lagaa rabaa. intaa markaad diyaarin category sourcing-ga noo sheegay, sourcing-ga waxaa noo sheegay nin goobo la yiraahdo oo shaqaalaha ka tirsan, waana head of employee, waa madaxa shaqaalaha ee shirkaddan uu ka tirsan yahay. asaa noo sheegay marka dadka aneyti 61 qofood inay 10 qofood ay yihiin HRM-ka, 15 qofood operation-ka ka qayb, marketing-ka 12 qof yihiin, sales-ka 12 yihiin. inaad ila fahamtaa rajeynaya. category-ga saas u diyaarinaysaa. qaybta saddexaad waxa weeyaan inaad sheegto
sourciga waa sheegtay, justificationka muhiim ah inaad cadeyso waxa dadkaaniti aad u xulatay. Justificationka dadkan sababta u xulana maxay ahayd? Waan soo sheegay sababta dadkan u xulana waxay ahayd waa kan fiiri, because maxaa yeelay maxay waxay bixin doona maxay relevant answers, waxay ka bixin doona maxay research questions kooda. idan afarta su'aal waan ka jawaabnay. kow waxaan sheegnay populationkeena, laba waxaan sheegnay sababta u qaadanay, saddex waxaan sheegnay gedi guriga ay ka kala tirsan yihiin, marka afraadna waxaan sheegay maxay sourciga dadkan aan ka helay. intaas in la fahmaa rajeynaya. hadda intaan waxaan ku diyaarnay waxa loo yaqaan maxay target population aan sheegnay. T wuxuu noqon doonaa xooga saari doona waxa loo yaqaan sample and sampling. Sample and sampling maxaa la yiraahdaa? Sample and sampling ma intaan gelin ka hor marka waxaa jira sifa yar oo nagala doonaya inaan isla wada fahmno, maskaxdana aan furno. Sample and sampling markaa doonayso waxaa weeyaan target population-kan aad qaadatay oo 61 qofood, dhammaantood suurtagal maaha inaad 61 qofood aad wada heshid. dunida ma jira qof 100% waxa laga rabo soo dhameystiri kara, waa may. That's why waa inaad ku tashataa marka dad aad weyn doonto inaad ku tashataa laga rabaa. 61gaas qofood waxaa leedahay tusaale ahaan 50 qofood oo kamid ah haddaan helo inta kale waa muhiima. tusaale ahaan marka dhiig lagaa qaadayo dhakhtarka aad joogtid, dhakhtarka ma dhiigaaga dhan oo shubanaya? maya, laakiin wuxuu shubanayaa qayb yar oo kamid ah dhiigaaga. yacni qaybtaas yar astaantaas oo yacni waxay muujiyaan oo dhaawac ah ama khatara ah ama cudur ah, macnaha waxay ka dhigan tahay dhiigaaga yacni jirkaaga dhanna uu qabaaya ka dhigan tahay. marka that's why marka haddii 60kan qofood aan yacni ka wada baarno sambal ahaan aan ka qaadana 50 qofood, 50kan qofood jawaabteena siiyaan 60kooda way ka sameyn yihiin. inaad la fahamtaa rajeynaya. okay, hadda waxaan naga doonayaa marka wax la yiraahdo sample. sambalka marka nagala doonaya waa qaybta afraad, yani qaybtani iyaduna waa qayb cilmi baarka uu ku xusay ama uu ku cadeynayo sida hoos ku xusan. kow waxaa sheegaysaa sample size. sample size maxaa la yiraahdaa? waa tirada sambalka daraasadda aad u qaadatay weeyaan. kow asal ahaanna markaad diyaarinaysa qaybtani waxaa jira marka laba qaybood oo bulshada loo kala qaado. bulshada aad wax ka diyaari doontid يعني sambalka kuwa populationka kuwa ah, مثلا shirkad baa hadda qaadan, shirkadani dadka ka shaqeynaya ama dadka population ba hadaan maqasho laba qayb baa loo kala qaybayaa. bulsho waxaa loo yaqaanaa infinite population, bulshana waxaa loo yaqaanaa non infinite population. aan fahana marka infinite population maxaa la yiraahdaa, non infinite population maxaa la yiraahdaa? infinite populationka waxaa la yiraahdaa waa bulsho kasta oo lasoo tirikoobi karo lana soo ogaan kara inta qaybood ay ka kala kooban yihiin. intaas isla fahamno. markaad sample populationka sample markaa rabta inaad qaadatid, populationka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. qayb waxaa la yiraahdaa infinite population, qaybna waxaa la yiraahdaa non infinite population loo yaqaanaa. infinite populationku waxaa weeyaa marka waa bulsho kasta taasi oo lasoo tirikoobi kara ama lasoo ogaan kara tirikoobkooda sida iskuulada. مثلا maanta iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho ama iskuulada Soomaaliya ku yaala Muqdisho Soomaaliya mise iskuula ku yaala markii lagu yiraahdo waxa laga yaabaa inaad tiraahdo 500 ama 1000 iskuula ku taala. sax yani tiradooda soo ogaan kartaa sax. tusaale ahaan waxa rabtaa inaad wax ka qorto shirkadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Muqdisho meeqa shirkadooda ku yaalaan? 2,000 shirkadood, 3,000 shirkadood, 200 shirkadood, waxa doonta dheh. Muqdisho iska dhaafay caalamka inta shirkadood ay ku taala la soo tirikoobi karaa. way la fahamtaa malaynaya. infinite bulshada marba hadii tirikoobkooda la ogaan kara waxa loo yaqaan infinite population loo yaqaana. macallimiinta ka shaqeeya magaalada Muqdisho ama macallimiinta Soomaaliya ka shaqeeya ee jaamacadaha dhiga ama iskuulaadka dhiga waa la yaqaanaa. ardayda jaamacadaha dhigta ama iskuulaadka dhigta waa la yaqaanaa. gawaarida magaalada Muqdisho ka shaqeynayso mid walba uu diiwaan gashan yahay. intaas meel la fahmay. idan marka hadii populationkaaga uu yahay infinite population laba qaacida ku soo saaro doonta sample populationkaaga.
labadaas qaacido waxaa loo kala yaqaanaa qayb waxaa loo yaqaanaa statistical table weeyaan, waa table inta badan la isla qaato. Tablekaasiti mar baa idiin soo bandhigi doonaa, hadda gacan kuma hayo, laakiin table ahaan waxaa weeyaan oo ku cabiraya. Tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay oo kale, haddii populationkaaga uu 100 qofood yahay, waa in sambalkaagu noqdaa 500 oo qofood. Tusaale ahaan ma soo qaadatay maada loo yaqaano managerial economic ama financial economic ama statisticskaba, soo ma jiraan tayblo inta badan oo aad yacni inta aad ka soo raacayso intan aad ka soo raacayso nabarka gudaha aad qaadanaysid statistics markaad qaadanaysid, weliba statistics 2 aad qaadanaysid, yani tayblo soo ma jiraan aad adeegsanaysid si aad u soo saarto xisaabtaada. tayblo noocaas oo kale waxa weeyaan oo jiro weeyaan aad ku soo saaranaysaa. sifada labaad oo populationkaaga markay infinite yihiin aad sambalka ku soo saari kartaan waxaa loo yaqaanaa bar formula, qaacida ku soo saari doontaa adoo qaacida adeegsanaya. intaas ma la fahmay? idan marka hadda waxaa ogaanay populationkeena markay tahay infinite markuu yahay, non infinite markii aan fiirino. qaacidada waa tan marka oo formula lagu soo saarayo. qaacidada adeegsan doono, qaacidada dib aan ka sharixi doonaa, laakiin bal aan ogaano horta non infinite population maxaa la yiraahdaa. non infinite population waxaa la yiraahdaa waa bulsho kasta oo aan la soo tiri koobi karin. maxaa kamid ah balka war haddii lagu yiraahdo magaaladaada waxaad wax ka qoraysaa tusaale ahaan oo kale timajarayaasha ku yaala magaaladaada, ama muqdisho joog ama hargeysa joog ama kalkacyo joog, meesha doonta jooge, magaalada aad joogto timajarayaasha ku yaala ma adaa tiri koobi kara? haddaad fiiriso marka qaar ma aragtay adoo meel iska socda ama luuq iska socda timajara yar oo muraayad iska tiirsaday oo timo iska yaraya, yani waa tusaale keliya. yani waxaan ula jeedaa timajarayaasha ma la soo koobi karo. timajaruhu haddana ma aha wax diiwaan gashan oo dad la diiwaan geliya ma aha, waa qof walba xirfad u leh. yani qofaan xirfad u lahayn suuqaas sidaa dad maqas qaadato tagto qof kuu fadhiisto oo madax u jirta ma weynaysid. waxaa loo yaqaana marka non infinite population. haddaan ku iraha kabara hooyooyinka khayralahaas iyo hooyooyinka caanaha gada ayaa wax ka qoraysaa inaad wax baartaa rabtaa. intaas ka soo tag hooyooyinka umulisada markaa rabta inaad wax ka qortid, yani dadkaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa non infinite population, waa dad aan lasoo tiri koobi karin. sababt maxaa yeele ma diiwaan gashna. hooyooyinka umulisada marka waxaa laga yaabaa xaafadaada keliya in 2 umulisi ku taala laga yaabaa, gurigeeda le wax ku umulisana. waxaan ka hadlayaa yani populationka lasoo tiri koobi karin. ka waran haddii lagu yiraahdo dukaanleyda, imise dukaana magaalada ku taala? suuqa iska daa, xaafadaada keliya imise dukaana ku taala? idan marka populationka noocaasitiyo kala oo aan la soo tiri koobi karin, مثلا reer guuraaga magaalada inta bulshada degan waa la tiri koobi karaa. xaafadaha marka مثلا degmadaaniti imise reeray ka kooban tahay imise guriyay ka kooban tahay, waa tiro kooban tahay. laakiin haddii lu yahay ka waran reer guuraaga magaalada yani duurka degan ama baadiyaha lasoo tiri koobi haddii lu yirahdo, dadkaas waxaa loo yaqaanaa non infinite population. labada tusaale in la fahmo umaleynaya buugga agtaada yaalna buugga in badan aad si daba raaci doonto. marka haddii non infinite aad tahayna waxaad adeegsan doontaa qof adig kaa horeeya sambalkoo adeegsada unbaa adeegsanaysaa. qof kaa horeeyey aad daba raacaysaa wuxuu adeegsaday sama qaabkuu adeegsaday waxyaabahaysiti inta badan kaasaad raaci doontaa. sidoo kale non infinite markay tahay bulshadaadoo kale waxaa la isticmaalaa table yani soo baxay 1970kii, wuxuu ku yaalaa bug loo yaqaano business research ku yaalaa buggiisa 200 iyo waxa loo yaqaano ii sheeg 11 software hadda ku hayla waa idin tusi lahaa, laakiin bug ahaan u haya waxa loo yaqaanaa business research loo yaqaana bugga 211 marka buggaasi tagto laba bug ee qoreen Jill Collins iyo kala qoreen Rockwell Horsey ee qoreen weeyaan. marka haddii buggaasi aad haysato tablekaas waad arki kartaa. marka haddii non infinite population kaaga uu yahay tablekaas raacaysa. idan marka anaga waxaa ogaaneynaa dadkeena waa population guud, waa marka aan wada qaadan karno. marka bal ayaduna aan fiirino dhammaantooda mid mid u wada fahmi doona marka insha Allah taala. marka hadda aan isweydiina marka population keeno ma non infinite population miya mise waa infinite population? idan population keeno marka waa infinite population. maxaa ku dhahna infinite population? adiga markaad buugga qoraysid iska fiiri populationkaaga haddii infinite population yihiin waxaad leedahay populationkayga
waxaa ku ogaanaysaa kow, waxaad ku ogaanaysaa mathalan tusaale ahaan anaga waxaan qaadanay company baa ka shaqeynaya soo maaha, ma waxaa jira company aan tirkoob u lahayn shaqaalihiisa? way jiraan. يعني كمبنياش dhamaantood maxay yani way u leeyihiin, waxaan ula jeedaa dhamaantood waa u wada tirkoobayihiin shaqaalahooda, maadaama shaqaalahooda ay u tirkoobay marka aniga hadda bulshadeena waa infinite population. maadaama infinite in waxaan leenahay marka laba option aan haysanaa. optionka koowaad waxaa waaye inaan table-ka adeegsano, inaan adeegsano by formula. anaga marka waxaan adeegsan doonaa by formula adeegsan doonaa. intaas waa ila fahantaa umaleynaya. bal igey marka table-keena sambalka way kanaa. okay, noo soo koobiye, noo soo qaad, halkaa noo keen, kan naga tirtir. bal aan fiirino marka sambalka ku waxaan qaadanay solventy formula, qaacida loo yaqaano. solventy qaacidadan sababta u qaadana maxay tahay? waxay noo go'aaminaysaa inay noo go'aaminayso arabnaa sample size-keena meequu loo ekaanaya. solventy formula marka was using waxaa u adeegsan doonaa inaan kaas ku qabano. that's why marka waxay u ekaan doontaa qaabka hoose ku qoran. marka qaacidada waa tanaa. qaacidada waxa weeyaan inta waxa weeyaan sambalka weeyaan, inta weyn hor u taagan kor taagan waxa weeye populationka. populationkaaga marka waxaa u qiiminaysaa 1 oo aad ku dartay populationkaaga oo aad ku dhufatay tirada aad weyn doonto. waxaa jirta marka maalinta aad adiga questionnaire-ka qaadayso ama interview-ga qaadayso ee aad shirkadda tegayso, shirkadda dhammaantood shaqaalaha ma wada joogi doonaan. waxaa laga yaabaa mid inuu fasax jiro, waxaa laga yaabaa mid inuu shaqo banaanka dibadda uu jiro, waxaa laga yaabaa inuu mid meeting jiro. waayo maalinta aad wax weydiinaysid ma wada heli doonto dadka dhammaantood. inay la fahmaa malaya. yacni shirkadda 61 qofooda ka shaqayso, 61gaasi qofood maalinta aad adigu rabto inaad interview-ga qaado ama question su'aalaha aad weydiiso, 61gooda ma u tagi doontid. ma fahmaysaa? maadaama 61 aad u tagi doonin, waxaa jira marka tiro aad weyn doonto, ama 10 qof ha noqdaan ama 5 qof ha noqdaan. tiradaas waxaa loo yaqaanaa marka calaamadda da u qaadanta waa level of yani significance ama marginal error weeyaan. dadka aad weyn doonto ama xitaa 61gooda qofood hadaad hesho, waxaa laga yaabaa yani 3 qofood inay xoogaa maalintaasi ay ku yidhaahdaan waa nervous aan nahay, 2 qofood ay ku tiraahdo waa mashquulsanahay, yani waqti aad u weyso, maamulkoo kale aad tiraahdo ii sheeg, yani lagu yiraahdo waa shirow ku jiraa. ma fahmaydaa? ida marka dadkaasi aad weyn doontan waxaa loo yaqaanaa baa u qaadanaysaa. marka qaacidada aan dabaqna marka anaga hadda waxay haysanaa 61 qofood. sambalkana meeqo la ekaan doonaa? wuxuu la ekaan doonaa waxaa loo yaqaanaa tiro 53 qofooda. say kusoo saara marka? bal aan tijaabina marka. calculatorka inuu noo shaqeeyo waa rajaynaya, inkastoo mararka qaarkood. okay, tiradana marka meeqa weeyaan? waa 61 halkaasi dhig. waxaan rabaa tirada hoose marka hore inaan ka shaqeyno. 61 waxaan dhahnay error waxaan weyn doonaa 5% aan weyn doonaa. 5% oo isku wargaraysa meeqa la egtaa marka? waxaan leenahay point 05 isku wargaray waa 0.25 waa 0.2225 sorry 0.0025 weeyaan 0.0025. intan tiradan waxaan ku dhufano marka aan ku dhufano inta weyn aan ku dhufano. weli tan aan ka shaqeynaa moogtahay inta weyn ku dhufo. inta weyn meeqa waa 61 qofood weeyaan. tiradan oo soo saartay. tiradan inta marka waxaan noogu dartaa 1 noogu dar plus 1. weli tirada hoosaan ka shaqeynaynaa bis leh. intaan noo soo saartay. inta meel ii koobiyey marka. ii koobiyey waxaan leenahay marka tirada weyn tiradana u qaybo marka. tirada weyn meeqa waa 60. ii xasuusna waa tirada inta igu qor. sorry waa naga baxday. I'm sorry. bal aan ka shaqeyna hadeerta. waxaan leenahay labadan tiro horta tiradan isku warka ku hormar. waxaa leedahay tirada ay weyn karno waa 5% weeyaan. waxaa leenahay 0.05 isku wargaray. intaas markay kuu noqoto baa waxaa ku dhufsanaysaa waxa loo yaqaano
inta weyna ku dhafsanaysaa oo 61 ah intani ku soo saaraysaa plus 1 dheh waxay noo soo saartay 1.1525 idan marka waxaan leenahay 61 loo qeybshay 1.1525 konton iyo laba qofood dhibic sagaal buuxso marka meeqa noqonaysaa konton iyo saddex qofood konton iyo saddex markaa ka jirta marka fiiri calculatorka noo geli konton iyo saddex qofood markii aad ka jirto 61 sorry noo hormarin 61 qofood markaad ka jirto konton iyo saddex meeqa soo harayso 8 qofood 8daas qofood waa 8 qofood laba kamid inaad weysa macquul laba kamid inay ku dhahan maanta ma jawaabi karno waa mashquulsana macquul saddex kamid in lagu yiraahdo ee shib bay ku jiraan adiga 8daas qofood waxaad ku talagelaysaa dad weyn doonto inay yihiin intaasna la fahmaa maleynaya hadda waxaan ka gudubnay qaybta labaad qaybtana waxaan gelayaa marka inaan sheegno haddana qaybahay ka kala kooban yihiin ilaa haday waxaan soo sheegnay 10 qofood inay HRM yihiin 10kan qofood HRM-ka imisan weyn doonaa operationka imisan ka weyn doonaa marketingka 12 ee meeqan ka weyn doonaa ina iyagana ku cadeeyo table ku cadeeyo aan tago waa kana mujida table waxaan kala qoranaysaa tabarkaas markaa qorata kadib akana markaa akasa waxaa leedahay sample size-kan wuxuu noqon doonaa 53 qofood anaga dooranay 53 qofood 10 qofood oo kamida population size-kan wuxuu ahaa 10 HRM-ka 10 oo ahaa 8 qofood in helna qasab weeyaan 15 operation ahaayeen 14 in helna qasab weeyaan 12 wuxuu ahaa marketingka 10 qofood ka helna waa muhiim inay noqon doontaa 12 sales inoo ahayd 10 in 12 in helna muhiim financing waa inka kan idan muhiimada fiiri haddana saamarka loo fiiriyo yaa badan wali waxa badan boqolkiiba 20 waxaa badan operationka waayo anaga inta badan waxaan xoog saaroonaa employee satisfaction iyo productivity-ga waayo productivity-ga HRM-na uma dhawo marketing uma dhawo inta badan waxa u dhow xoog saarayna operationka intaasna waa 11 toomalinay hadda qaybta saddexaad aan hadda sii gudbayna marka population-ka markana kala ogaata waa infinite miya mise waxa weeyaan waxa loo yaqaan non infinite weeyaan qaybta saddexaad qaybta afraad weeyaan qaybta saddexaad waan ka soo waxaan soo sheegnay research design-keena target population-keena saddexaad waxaan sheegnay sample procedure ka sheegnay hadda waxaan nagala doonayaa marka sample procedure maxaa tahay sample procedure waxa la yiraahdaa waxa sheegaysaa technique ama process-ka aad adeegsan doonid waxa uu yahay sheegaysaa process-kaaga wuxuu u yahay ayaa sheegaysaa idan marka qoladaanayta marka qaybta markaan joogno marka sample procedure-ka muxuu ku sheegayaa marka cilmi baaraha qaybtan horta waa qaybta afraad ee jabtarka saddexaad ee daraasadda kaasi uu cilmi baaruhu oo kamida qaybaha ugu muhiimsan ee daraasadda markaad aad gudbinaysid ama aad qoraysid waxaana loo yaqaanaa dhowr magac ay kamid tahay sample technique loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa sample method loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa sample strategy loo yaqaanaa hadba nooc magaca u taqaan adiga weeyaan anaga magaca adeegsadan waxa weeyaan sample procedure idan markaa haddaba markii qaybtan la marayo waxaa muhiim ah inuu cilmi baaraha ama researcher-ka inuu kala yaqaano noocyada loo qeybiyo probability-ga ama ihtimaalka probability-ga marka waxaa jira laba qaybood oo probability-ga oo loo kala qeybiyo baa jiro qayb waxaa loo yaqaanaa non probability sample method qaybna waxaa loo yaqaanaa probability sample method labadan probability inaad kala fahamtaa waxay ku xiran tahay marka oo qasab kugu ah inaad sample procedure doorato waa labadan qayb kala fahamtaa qayb waxaa loo yaqaanaa non probability sample loo yaqaanaa qaybna waxaa loo yaqaanaa
probability sample hoosaan ku arki doonaa. qaybta number probability waxa weeyaan waa markii cilmi baaruhu uu si nasiib ah tusaale ahaan aan fiirino istaadow waxaan soo sheegnay Soomaa target population oo 61 qofooda 61 qofood waxaan sheegnay 53 qofood inaan qaadanay oo macnaha 8 qofood oo kamid ah inaan weyn doono. okay 8 qofood ma anaga dooranayna marka 8 qofood tusaale ahaan aan ku laabano page-keena 8 qofood hadda waxaan sheegnay HRM-ka 10 qofood 8 qofood ma anaga kala dooranayna marka ma anaga dhaheeno waa inuu maamulaha ku jiraa waa inuu hebel ku jiraa waa inuu hebel discrimination ma sameynayna dad kala saasaad ma sameynayna waa may 8 qofood waxaan rabnaa si ihtimaal ah inaan u doorano si ihtimaal maxaa weeyaan qofkii ku soo aada asay u taala ila marka fiiri markaad probability-gaaga dooranaysid marka waxaa jira marka number probability iyo probability inaad in badan ila fahamtaan oo hadaad statistics soo barto ila fahmi doontaa wuxuu marka waa yani waxa laga doonayaa Soomaa 53 qofood inaad doorataa laga rabaa 53 qofood marka ma si ihtimaal ah oo adiga ogtaa u dooranaysa tusaale ahaan istaado fiiri inta waxa taagan A B iyo C ya taagan hoosna waxa taagan 1 iyo 2 iyo 3 ya taagan ama tan iska dhaaf kan leey badi kan kor leey badi waa tusaale ahaan ya D A B C D E F G H I J K L okay waxa lagu dhahaa tusaale ahaan marka Heblaayo Sooka Axmedow Sooka ama Xuseen Sooka magacaaga la magacaabay magaca la mid doonadaba waxa lagu yiri intaana xaraf meeqa weeyaan waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 kan qofood 6 kamid ah qaada lagu yiri 6 kamid ah qaado 6da kamid ah qaadanaysa marka waxa awood u leedahay inaad tiraahdo A B C 6dan aan qaadanay inaad xaq u leedahay qof kula hadlay ilaa 6 qaada lagu yiri Soomaa eco B hoos igi idan fiiri maan sameeyay mise xaqaa sameeyay baan sameeyay marka intaan qofood markaan dooranayay inta aan dhihi la nasiiba idinku qaadanaya oo baqti nasiiba idin tuuraya ma dhihinay midigan ka soo bilaabo waan waday intaas qaatay xaq ma aha marka probability waxa weeyaan 53 qofood ee nagala rabay inaan qaadano ma anaga dhahana marka hebel waa inuu ku jiraa hebel laga baxshaa hebel iska bix muhiim ah ma aad dhahaya marka may waana 61 qofood si nasiiba u kala xulataa 53 xiliga qofka ku soo aadaysa idii u taala ina ila fahamtaa rajaynaya ka wara marka hadda aday waxaan sameeyay wax loo yaqaano qalada sameeyay indhaha isku qabtabo dhagaxan tuura qofka ku dhacan qaata markaan indhaha isku qabta dhagaxii wuxuu ku dhaca D ii soo qaad hoos iigi iyo qor hadda indhaha isku qabta dhagaxan tuura ejo ku dhacay ii soo qaad intii ii keen hadda dhagax labada tuura wuxuu ku dhacay L E K ku wada dhacay ii soo qaad intii ii keen hadda indhaha isku haysta aniga intooda wada faraxsan yihiin marka laana inta qofeed aan qaatay anu indhaha isku haystaan qaatay in ila fahantina rajaynaya tusaale labaad hadana ku celiyo waxaan sheegnay total population-keena waa 61 qofood sambalka aan qaadan rabna oo aan soo qaadanay oo aad waxaan ku sambalkan 53 qofood miska qaadanay iskama qaadanay qaacidan u marna qaacidadii ku soo saamay okay si aan 53 qofood aan u tagi doono marka meesha tagno qasab ay tahay yani 53 qofood macnaha waxa weeyaan 40 qofood ma soo qaadan karno warahdooda wala asaadu waxay ku fiicnaan leedaan wiji isku fadhino laakiin inta ugu macquulsan isla ku fahamsi kartaan soo qaadanaya inta waxa joogo hooyo hoose waxa joogo aabo waxa joogo hadana xaas hadana waxa joogo ubad adigu waxa wadataa marka gaariga wadataa gaariga wuxuu qaadaa 3 qofood oo qaadaa in la fahamto marayna 3 qofood ee gaarigaaga uu qaadayo waxa la yiri fiiriya population-kaaga meeqa waay waa 4 qofood sambalkaaga meeqa waay waa 3 qofood gaarigaaga 3 qofood saara lagu yiri 3 qofoodna meeshan ka soo xulo hooyo aaba hadaad qaado xaaska ma ka tagtaa mise ubadka ka tagtaa hadaa xaasi ubad qaado
ma hooyaa ka tagtaa mise aabbaa ka tagtaa. haddii aad saddexdaana qaado labadaani kalama maarmaan. haddii aad kan iyo kan iyo kan yacni hooyo iyo aabe iyo ubad haddaa qaadana dee xaasuu kalama maarantiin. haddaad labadaani isheeg saddexdan haddaa qaadatana hooyo kama maarantid. haddaad saddexdan kala qaadato aaba kama maarantid. inaa ila fahamtaa rajeynaya. idan marka haddaa dhahdo saddexdan qofoodaan qaadanaya si mutakibira aad tidhahdo saddexdan qaadanaya ubadkaaga aad ka tagto waxaa laga yaabaa ubadkaaga inuu cuqdad yani uu yani yiraahdo. laakiin haddii aad tira ixtimaal ahaan intay u soconnaa anaga waxaan u soconnaa xajka u soconnaa. xajka maadaama aan u soconno horta hooyo aabbo waa waajib in la qaadaa lianna waa qaangaaro. haddana iyagaa xaq ka mudan labada kale markii la fiiriyo. okay, qof saddexaadaa rabaa soo maaha. xajka hooyada inay aado iyo ubadka inuu aado iyomaa fadli badan inay hooyada aado, waayo ubadku dibbuu maalmaha fursado kale u heli karaa. idan fiiri saddexdani qofood marka gaarigaan ku qaaday, saddexdani qofood gaarigaan ku qaaday. saddexdani qofood markii aan qaaday cunuga aniga aan dhalay ama adigu aad dhashay ubadka ahaa wuu qanacsan yahay asigoo faraxsanaa ka tegaysiin. sababta maxaa yeelay saddexda qofood way kaga mudan yihiin xaaladda loo socdo. inaa ila fahamtaa rajeynaya. idan probability waxaa loo yaqaanaa markaad waxaan qaadanaysid ma si xaqaa ku qaadatay mise si xaq daraha ku qaadatay. intaas aan ugu gudubno marka yani haddaad cashirka ku ceshceshto inaad fahmi doontaa rajeynaya. muhiimadda guud aan ka duulina waxaa weeyaan marka kowga aan soo sheegnay populationkeena aan soo sheegnay sambalkeena aan soo sheegnay hadda waxaa nagala doonaya waxay tahay sample procedure. sample procedure maxaa la yidhaha marka? sample procedure waxaa la yidhaahdaa inaad sheegto procedureka adeegsan doonta ama sida aad u martay konton saddexdaasi qofood ee aad soo qaadatay ma si xaqa ku soo qaaday ma si xaq daraa. aan ku bilaawna non probability aan ku bilaawnabo. marka si mutakibira wax ku qaadanaysid oo adoona xaq u fiirinin yaa muhiima u fiirinin, waayo marka hadda hooyo iyo aabe iyo xaas markaan qaadanaynay ubadka markaan ka tegayn ubadka maxaan ugu tagnay sabab ah weli asiga xajka muusan gaarin. saddexdan qofooda ugu xaq leh inaa fahamtaa malinaya. okay, number probability markaa leena fiiriye. number probability-gu waa markii uu cilmi baarihu uu sameynayay yacni waa markii uu cilmi baaraha waa markii uu cilmi baaraha si nasiib aan ahayn uu ku kala xusho bulshada ama populationka uu xogta ka wareysanayo dhowr qaaboodan u maray doonaa. qaybta kood waxaa loo yaqaanaa snowball ama network loo yaqaanaa. network maxaa weeyaan? cilmi baaruhu waa qaab uu cilmi baaruhu ku qaadanaya markii ay ku adag tahay inuu dadka kala garto ama uu yacni dadka uu kala fahmi karo yacni ama qarash badan ay ka gelayso ama ay uga baxayso. tusaale ahaan ma kala taqaanid qofka maamula miya, qofkan waardiye miya, qofka ma milkiilihi miya, qofka ma customer ma kala taqaanid. markaasoo kale waxaa qaadanaysaa snowball. snowballka marka waa markii aad kala garanaynin dadkaanayti markaasaas ka leedahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel idinka idin baahanaa leedahay. consequence maxaa la yidhahdaa? consequence waxaa la yidhaahdaa waa qaab uu isticmaalo cilmi baaraha aan dhibka jeclayn si howl yani howlgelinta markii uu doonaya marka wuxuu ka waheysanayaa ama uu ka cajisanayaa yani bulshada ka fogfog. tusaale ahaan oo kale wuxuu leeyahay hebel intuu degan yahay degmada degmo hebelaayo degan yahay magaalo hebel uu degan yahay. maadaama mathalan muqdishoan jooga haddaan laba qofood u baahanayo shirkadan ka shaqeeya qofna uu joogo kaalkacayo qofna uu joogo hargeysa yani qofka hargeysa joogo maxaa iskaga dhibaya u leeyahay marka wuxuu soo qaadana kaalkacayo beledweyne meesha loo yaqaano ii sheeg yani marko braawe yani degmooyinka u dhow dhow magaalada muqdisho qarash badan ka bixin soo qaadanaya. waa number probability markay taa fiiri marka shaqaalaha jooga hargeysa wuxuu ka xushay shaqaalaha jooga magaalooyinka ku dhow magaalada muqdisho waayo uu qaatay number probability ku qaata marka si aan eex lahayn. wuxuu diidayaa marka ama uu ka waheysanayaa caajisa waxa ugu jira maxay bulshada ka fogfog. idan marka haddana shaqaalaha hargeysa jooga iyo jooga kaalkacaya marka way siman yihiin ama marketing ay ka wada tirsan yihiin
ama HRM ay ka wada tirsan yihiin, laakiin sababta uu kan Hargeysa gaalkacyo joogo oo u qaatay baa waxay tahay waa ii dhow yahay. Buujeeda marka uu ii dhow yahay. Waxaa laga yaabaa maanta waa maalin sabdiya weeyaan oo bishana 19 ee bisha Maars ay tahay. Maanta kale inuu meel ku qora laga yaabaa gaalkacyo shaqaalaha joogan qaadanaya kan Hargeysa ma rabi. Maanta sabdi waa marka axad waa la joogay, maalinta Isniinta uu shaqo geli lahaa waxaa laga yaabaa kii Hargeysa joogo inuu soo baxo u yimaado Cadaado u yimaado. Idan marka kan Cadaado jooga iyo kan gaalkacyo jooga yaa dhow, kan Cadaado dhow. Waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo marka kan Cadaadaan qaadanaya. Shalana wuxuu qorsheeyay inuu qaadan doono ninka loo yaqaano gaalkacyo. Gaalkacyo hadda wuxuu ugu tagay waa laga dhow yahay haddana. Markaas waxaa loo yaqaanaa consifinisna loo yaqaanaa. Quota maxaa loo yaqaanaa? Quota waxa weeyaan waa qaab uu cilmi baaruhu uu ku kala kooxeynayo yacni bulshada uu yarabo inuu wax ka qaato uu ku kooxeynaya soo ku kooxeynaya wuxuu leeyahay qof walba ee ii dhow waan qaadanaya, qof walba oo iga fog waan qaadanaya, qof walba oo shirkadda joogay 5 sano ama 6 sano joogay waan qaadanaya. Shaqaale wuxuu kala saaray 61 qofood. Qofkii joogay tusaale ahaan wuxuu leeyahay intaygay 5 sano qofkii ka shaqeynayay waan qaadanaya, laakiin 2 sano qofkii joogay ma qaadanayay. Ma fahantay? Shaqaale kasta oo 5 sano joogay xaq wuxuu u lahaanayaa marka in su'aal la weydiiyo. Shaqaale kasta oo 2 sano joogayna xaq uma lahaanayo inuu qaato. Sababta maxaa yeelay asiga u kala kooxay noocaasiti. Waa non probability-gan wali ku jirnaa. Non probability waxa ugu dambeeya marka waxa loo yaqaanaa persuasive wax loo yaqaanaa ama judgmental loo yaqaanaa. Waa qaab uu cilmi baaruhu u sameeyaa shuruudo u kala sameeyaa. Tii hore camal ay isku midan tahay laakiin way ka duwan tahay shuruudahaneetiyo. Mesela tusaale ahaan shuruudaha waxaa kamid ah inuu yiraahdo mesela anay dadka dhaadheer bisa su'aashan weydiinayaa. Waxaan weydiinayaa dadka jooga ii sheekaliya marketingka ka shaqeeya bisa su'aal weydiinayaa. Yacni inuu asiga shuruudo u kala dedejiyo. Idan marka kuma dheeraanayo buugga hadaa haysato waxaaneeti yacni waa qaadan doontaa dhammaantooda adaa wada arki doona. Laakiin hadda waxaa rabaa haddana inaan galo wax loo yaqaano probability sampling-ka. Probability-ga waxaa marka waa midda ugu fiican uuna wanaagsan weeyaan inaad bulshadan u kala xulato waayo inaad dhahdo maaha kan Hargeysa jooga ma qaadanayo waayo waa iga dheer yahay inaad dhahdo maaha. Waa inaad si joogto ah oo si camiiq ah oo ku jirin inaad u wada qaadato. Marka probability-ga waxaa markii uu cilmi baaruhu bulshada ama population-ka uu kala xulanayo si aan lahayn oo nasiib ah si xaqan ah loo kala qaadanayo. Waxaa kamid ah marka wax loo yaqaano sample random kamid ah. Sample random waxa weeyaan waa wuxuu adeegsanayaa software uu adeegsanayaa. Software-kaaseti inta ku soo baxdo bakhti nasiibka ama turb ha noqdo ama laaduu ha noqdo ama calculator ha noqdo software-ka noocaas markuu adeegsanayo inta ku soo baxdo ayaa la adeegsanayaa. Fahmaysaa? Mesela software-ka la adeegsan waxa kale oo kamid noqon kara maxay qoratuura kamid ah. Qoratuurka waxaa soo baxay isigoo waxaa soo baxay sidii kalaabida lagu ciyaaro ma aragtay oo bakhti nasiibka yani in la wareejiyo falarti kugu soo aadayso qaabkaasiti. Israfay waxaa la yiraahdaa waa qaab uu cilmi baaruhu ku xulanayo sifooyinka qofku kala sameynayo. Wuxuu leeyahay mesela inta macallimiin qaadanaya, ardaydan qaadanaya, qof waayeelka qaadanaya waxyaabahaasiti. Closer waxa weeyaan inuu yiraahdo dadka igu dhow waxaasiti yani marka inuu kala qaatay waxaasiti. Marka sidoo kale qaybtan procedure-ka marka qaadanayso wuxuu qaadanayaa sida yani qaybtan afraad markaad kowgisto aad baarayso ama cilmi baara aad tahay waxa muujinaysaa kow yani kor waxaan kugu soo muujiyay number probability iyo probability-ga maxaa laga doonayaa marka qaybtan qoraysid sida awgeed qaybtan afraad marka qoray cilmi baara waxa laga doonayaa kow labada probability ka isticmaashay markaad sambalkaaga qaadanaysay oo 53 qofood aad kala xulanaysay يعني si u kala xulatay 8 qofood ka tagtay ama 8 qofood xaq daro looga tagay ba ma 8 qofood oo yani deyn la midibta kooray ba sidii hadda aan dhigno kala qofka kalkacay joogan qaadanaya kan Hargeysa jooga ma qaadanaya yani sababta ugu taga maxay waa ii dhow yahay qarashka iiga dhawaa laakiin xaq mu u lahaa inuu waxa la rabaa in la isku qabto oo baqtiinab u sameeyo hadii kan Hargeysa soo baxna waa inuu qaataa haduu kan soo baxna waa inuu qaataa ina ila faanta rajaynaya idan labada probability number probability ma ku shaqeysay mise probability ku shaqeysay
markaa sheegtay kadib waxaa sheegaysaa labada probability waxay lahaayeen qaybo badan ay lahaayeen, qaybta aad kasii qaadataa sheegaysaa iyo sababta aad ku isticmaashay qaabkaasiti. idan marka anaga hadda waxaan ku shaqayn doonaa nooc loo yaqaano ii sheeg probability aan qaadan doonaa, waxaan ka qaadan doonaa qaybta ugu horeysayso oo sambalina, waayo iyada waxay tahay qaabka ugu wanaagsan ee loo shaqeeyo. waxaan qaadan doonaa probability, waxaan qaadan doonaa sambal waxa loo yaqaano maxay sambalarna baan qaadan doonaa, waayo marka halkaan fiiriso marka meeshan joogto waxaa laga rabaa labada probability kay qaadatay, qaybahooda kay kasii qaadatay, sambalka kay qaadatay. marka bal tusaale ahaan aan tagna markaa waa kana jabtarkana waa jabtarka tusaale ahaan oo kale lagugu caabiya mase professorkaaga ku siiyo kale. waxaa leedahay kow fiiri sample procedureka, waxaa leedahay daraasadani waxay isticmaali doontaa probability sample method ay qaadatay oo non probability anaga ma qaadano kale ma rabno, oo shaqaalaheena kan noo dhow, kan 5 sano joogay, kan 6 sano joogay, dhammaantood isku xuquuq waaye. keliya anaga waxaan u fiirinaynaa shirkadan ma ka shaqeeyaa mise kama shaqeeya. wuu ka shaqeeyaa, marba hadduu ka shaqeeya wuxuu xuquuq u leeyahay inuu ka qayb qaato daraasadda. ma dhaheen 2 sano shaqeynaysaa xagga fariiso, ma dhaheen adi waa dheer tahay, adi muslimaad tahay, adi gaalaad tahay, adiga ii sheeg yacni qayb ma u samaynayno. anaga waxaa muhiim ah probability-ga markaan qaadanayno inaan dadkaanita xuquuqdooda aan sinno, waayo 53daas qofood waxaan rabnaa si cadaalad aan ku qaadano. waxaa kaloo ceeb ay leedahay, maalan waxaa laga yaabaa xataa non probability haddaadan ku shaqeyno xuquuq ahaan aadan u fiirin, xaq ahaan aadan u fiirin, waxaa laga yaabaa qof aad tiri adiga hebelaad tahay ama heblaayaad tahay ama muslimaad tahay ama gaala waa ku qaatay, markaad tirahdo u sameyso si xaqdaraha aad u qaadato, waxaa laga yaabaa inuuba ku dhawaanay daraasadaada ka qayb qaadan karo. fiiriya qofkaniti qofbaa waxaa tiri kuma qaadanayo adiga iga dhaqaaqay, waayo 2 sana ka shaqeynaysaa, hebelaa kaa fiican, hebelaan qaadan. hebelkii aad tiri wuu kaa fiicnaa, waxaa laga yaabaa inuu ku dhawanayo waan daraasadaada kama qayb qaadan karo. kii horena kuma laaban karta, kana wuu ku diiday. isaga taas kuugu dhicin marka waxaa fiican probability inaad qaadato. probability marka sababta u qaadana maxay tahay? sababta u qaadana waxay tahay bulshadeena waa vanid weeyaan, waa registered population weeyaan. waxaan sidoo kale hore kugu soo sheegay populationku in loo kala qaado infinite population iyo non infinite population. bulshadeena marka maxaa waaye vanid population waaye, waa bulsho register garaysan waaye, waayo shirkadaniti waa population la qaban karo ama la tirikoobi karo waaye, waayo 61 qofood. procedurekan sababta u dooran maxay tahay? marka procedureka la doortay, daraasadan loo doortay marka wuxuu noqon doonaa maxay? simple random sampling. kan muxuu yahay marka? kan waxaa weeyaan waa kan ugu horeeya ee probability-ga loo adeegsanayo. tusaale ahaan kor markaa u socoto fiiri, probability-gan ugu horeeya muxuu ahaa? sample random uu ahaa. sample randomka maxaa weeye marka? waa adigu population-ka u sameynaya ama software adeegsanaya ama laaduu adeegsanaya ama dhagax tuur qoratuur adeegsanayo. qoratuurka magaciisa hadda iga maqan, yani waxaa jiro yani geed wareegsan oo inta badan yani kalaabida lagu arko ama marka ixtimaalka la sameeyo la qaato, waa geed wareegsanaya weeyaan oo falaar leh, waa sida kambaska kale uu eg yahay. idan shaqaalaha dhan magacyadooda ku wada qoraysaa, geedka waa wareejini lebis soo wareegsana yani u wareegsanaya. marka dambe qofba magaciisa ku aadaya, qof aloo qofku ku aado waa qaadanaya. adiga 53 qofood markuu ku ekaado 8 soo harta nasiib darra uu ku tagaysaa, waayo yani ayaga waxay ogyihiin inaad maxay xataa adiga ma wareejinaysid. ayaga waxaa leedahay shaqaalaha imaada kaale wareeji, qofa mar wareejinaa, qofa mar wareejinaa. 53 qofood markay wareejiso waxaa laga yaabaa kan wareejinayaba inaysan kusoo aadana laga yaabaa, waayo yani markaas adiga waxaan qaadanay marka probability aan qaadanay. procedureka aan ka qaadanay waxaa loo yaqaanaa sample random aa loo yaqaanaa. sababta u qaadanaa noo dhima marka fiiri, waxaan qaadanay probability sample method aan qaadanay. maxaa u qaadanay? waayo bulshadeena waa bulsho vanid ah, haddana registration population ah. procedurekan qaadanay waxaa loo yaqaanaa simple random simple-na loo yaqaanaa. maxaa u qaadatay weeyaan? because maxaa yeelay simple randomka waxaa weeyaan is simple technique, waa astaan ama technique lagu soo saaro la adeegsado weeyaan, weerarkaasoo every item ama every person, every employee laba meeshan, every employee, shaqaale kasta ee populationkan ku jiro ama every person
shaqaale ama qof walba oo populationkan ka tirsan muxuu leeyahay equal chance uu leeyahay wujida chance siman oo xuquuq ah oo lagu doorto lahaanaya sample method ka kale waxa weeyaan is the important factor weeyaan kaasoo inta badan lagu kala doorto maxay self result lagu kala doorto sample procedure in elephant ma umaleyn laakiin qoraalkan yar inaad diyaarisid waxaa qasaba inaad ka dhisan tahay maxaa loo yaqaanaa probability sample maxaa loo yaqaanaa number probability sample maxaa loo yaqaanaa infinite population non infinite population maxaa la yiraahdaa waxaas oo dhan waxaad ka wada heli doontaa maxay buugga hagaha cilmi baaraha ka wada heli doontaa yacni ama haddaad bugaagta kale englishka haddaa adeegsato ama internetka aad adeegsato xataa maxay dhammaantood waa wada fahmaysaa marka aan kusoo laabana markaa buuggeena caadiga aan kusoo laabana qaybta kale inaad diyaaran nagala doonaya maxaa weeyaan research instrument inaad sheegtid research instrument waxaa weeyaan hadda populationkeena waa sheegtay sambalkaagana waa sheegtay procedureka sambalkan kusoo dooratay konton saddexdan qofoodna inay yacni sababtaa kusoo dooratana waa sheegtay waayo anaga waxaan qaadanay probability si xaq la-aan u qaadanay waxaan sii qaadanay software ama ii sheeg yani qoratuura adeegsanay sifadaas markaa soo sheegto waxaa laga doonayaa research instrumentigana sheegtay research instrument waxaa weeyaan daraasadaada marka aad xogtan soo saar chapter 4ka markaad soo saaraysay maxaa adeegsatay weeyaan marka aan fiirina marka maxay leedahay qaybtani waa qaybta shanaad ee buug ee chapterka 3aad ee daraasadaada kaasi oo cilmi baaruhu ku cadeynayo sidii uu macluumaadka daraasada ku soo aruurin lahaa saad macluumaadka ku soo aruurin lahayd sheegaysaa marka oo chapter 4kaaga okay marka macluumaad inta soo aruurin marka idna waxa fiican inaan kala fahmno primary data iyo secondary data xiisada bilowgeeda ama fiidiyoga bilowgiisana waan ku soo sheegay macluumaadka daraasada waxay ka kooban yihiin marka ama buugaaga dhammaan shanta chapter waxay ka kooban yihiin labadan inta marka qaybna waxa loo yaqaanaa primary data qaybna waxa loo yaqaanaa secondary data primary data maxaa la yiraahdaa primary data waxaa la yiraahdaa waa macluumaad kasta ama waa macluumaad aad adigu soo abaartay soona diyaarisay misana aad daraasadaada ku soo dartay iyadoo macluumaadkaasi lagu soo aruurin karo sifooyin yacni dhowr nooc oo kala duwan primary data waxaa la yiraahdaa waa xog walba ama data walba adigu shakhsi ahaantaada leedahay qofna aadan ka soo koobiyeysan qofna aadan ka soo xadin adiga aad soo diyaarisay waxaa ku keeni kartaa questionnaire maxaa la yiraahdaa waa arki doonaa markaan chapter 4 bilaabayno ayuu in badan qoseyn doonaa sidoo kale waa qaab uu cilmi baaruhu ku diyaarinayo su'aalahaasi wuxuu u qaybinayaa dadkaasi marka way ka jawaabayaan marka su'aalahaasi waa kow inta badan ma aragto warqad jaamacad adoo fadhiyo warqad lagu keenayo ee lagu dhahay buuxi warqadaaniti questionnaire loo yaqaan interview maxaa la yiraahdaa interview waxa weeyaan questionnaire inta su'aal la siisaa ka tagaysa warqad ma ogtahay laakiin questionnaire waxa interview waxa weeyaan shaqaaleyna folka folaad ula fadhiisto su'aasha toos u weydiiso jawaabtiisa aad ka qorato observation waxaa la yiraahdaa inaad wixii indhayso adigoo interview sameyn waxna sameyn meesha ay imaanaysaa kor ka fiirinaysaa yani jawaabta maskaxdaada ka qaadanaysaa secondary data maxaa la yiraahdaa secondary data waxa la yiraahdaa waa macluumaad walba oo quseeya daraasadaada kuwaasi oo yani laga soo qaatay cid kale sida idaacad inaad ka soo qaadatay khudbo aad ka soo qaadatay film aad ka soo qaadatay ama buug aad ka soo qaadatay cid kale ee qortay wax walba oo aad adigu lahayn oo ma film aad ka soo qaadato qof kale aad ka soo qaadato citation u sameysay waxa loo yaqaanaa secondary data sidaa awgeed marka wuxuu cilmi baaraha muujinayaa qaybtan shanaad ee loo yaqaano ii sheegnay research instrument waxa ku muujinaysaa sidii uu ku soo aruurin lahaa macluumaadka asiga oo tilmaamaya mid ka mid ah sifaadka kore okay marka bal aan fiirina marka research instrument maxaa la yiraahdaa research instrument waxa laga doonayaa qaabka inaad u qorto siina ka muujida inta noo soo koobiye noo soo qaat continue soo leh halkaan oo keen chapter 3 dhamaantiin waa iska wada caawin kartaan wuxuu yiri marka fiiri marka research instrument wuxuu lagu sheegayaa wuxuu yiri daraasadani waxaa loo adeegsan doonaa questionnaire instrument ahaan questionnaire u adeegsan doonaa questionnaire muxuu ahaa inaan su'aalo diyaarno ee dadka aan weydiino questionnaire kaasoo aan ku doonayno for collection aan ku soo aruurino data taasoo noogu shaqeyn doonto maxay in quantitative research ahaan noogu shaqeyn doonto wajida
qualitative ana muu samayn doonto, quantitative ana u shaqayn doonaa. Quantitative maxaa waaye inaan wixii tira ahaan kusoo saarno weeyaan marka. Okay, questionnaire-ka marka aan qaadanay waxaa weeyaan questionnaire su'aalo waxaa la diyaarinayaa open ended ah, su'aalo haa iyo maya ah oo astaan lagu muujinayo. Mathalan shaqada ciyooma imaadaa, haa waa imaadaa, maya ma imaadi. Okay, mushaarka ciyooma qaataa, haa waan qaataa. waayahay marka ilaa anaga waxaan ka shaqeynaynaa moogta employee satisfaction. su-aasha marka waxay noqonaysaa qanaacada, su-aalaha aa weydiinayso waa inay qanaacada ku saabsantahay. tusaale ahaan marka waxaa dhehaysaa oo kale markay xaalado adag kula soo gudboonaadaan, tusaale ahaan markay hooyadaa xanuunsato ama xaaskaaga xanuunsado ama saygaaga xanuunsado ama cunug uu kaa xanuunsado, ma lagu fasaxaa? maya haddoo dhan macnaha waxaa waaye ma qanacsana weeyaan, waayo qof ka xanuunsan yahay ma shaqeyn karaba. idan haddii qofkaaniti laakiin uu ku yidhaa waa lee fasaxaa, macnaha waxaa waaye uu qanacsan yahay. okay, mushaarkaaga ciyooma qaataa, waan qaataa. yacni su-aasha jawaabta haa iyo mayay ku saabsanta, waayo open ended question aa loo yaqaanaa. open ended question waxaa waaye su-aalaha haa iyo maya looga jawaabi karo. su-aasha marka haddaba haa ku dhaw waxay ku tusay satisfaction, no haddaba ku dhaw waxay ku tusay dissatisfaction, qanaaca la-aan. okay, wuxuu yidhi marka sambalka marka aan anaga was carefully selected, waxa si buuxi waxaa loo qaatay 61 qofood oo shaqaalaha la qaatay. yani waxaa weeyaan sambal yaa dhihine, sambalka aan qaadanay ma ahayne kan waa populationka aan qaadana weeyaan. populationka marka meeqoo ahay sambalkeena waa 53 qofood weeyaan. marka tiniinka aan qaadanayna waxaa weeyaan questionnaire weeyaan, waa elephant oo malaynaya. idan marka intaan oo dhan waxay sheegay marka questionnaire-kii waxaan qaadanay sheegaysaa. marka intaan kale aan fiirino wuxuu leeyahay marka isagana haddana the selection of this toolkan oo questionnaire-ka aan qaadana marka has been guided by, waxaa nagu hagay yani ama inagu hagaysaa ama waxaa na hagaya waxay tahay nature of data to be collected. daatada aan qaadanaynay ayaan hagay, iskama qaadan questionnaire, laakiin inaan xulano toolkaneti waxaan nagu hagayay nature of data, xogta aan doonayna awgeed aan u qaadanay. sidoo kale waxaan u qaadanay time available, waqtiga aan heli karinay, yani waa waqtigaan ugu koobnaa. waayo interview qofka inaad la qaadato iyo inaad mathalan interview kale markaa qaadatay fiiri, interview waxaa weeyaan 53 qofood aad hor fadhiisanayso oo ugu yaraan 12 ama 15 su-aalood aad weydiinaysid. yani qof walba waqti u baahan yahay waa doctor umanaya, laakiin 53 qofood hal sac gudahooda ku mari kartaa markay questionnaire ay tahay. waayo qof walba warqadaas siinaysa, warqadaas uu ku jawaabayaa bas le dhammaantood hal sac, yani 2 sac daa u tagto 4 sac baad kasoo noqon kartaa. laakiin haddaad interview qaadato ama observation qaadan lahayd waxaa laga yaabaa 5 maalmood inay kugu qaadi lahayd interviewga. inaad fahamto malaya. as well as sidoo kale haddana waxaan hagaya waxa loo yaqaano study overall aim, ujeedada guud ee daraasadda laga leeyahay oo ahayd in la baaro xiriirka ka dhexeeya dependent variable-ka iyo independent variable-ka. ina elephant malaya. marka instrumentiga aan qaadana ko maxaa weeyaan waa questionnaire. sababta u qaadana maxay tahay marka, sababta tan u qaadana waxay tahay marka waxaan hagaya nature of data, xogta aan ururinay caadi ahaanteeda kow, waqtiga la helaya 2, iyo sidoo kale maxay daraasadda ujeedada guud ee laga lahaa ee questionnaire-keena muxuu ahaa marka dependent variable-ka iyo xiriirka ka dhexeeya independent variable-ka. okay, hadda waxaan gelaynaa waxa loo yaqaano research quality. research quality-ga markaasna wax yar baa nagala doonaya inaan fahmo. research quality waxaa weeyaan waa qaybta 6aad horta hore ee chapterka 3aad ee daraasadda, kaasi oo cilmi baaruhu ku muujinaya saxanaanta iyo tayada ee daraasadiisu leedahay, asaga oo tilmaamaya waxa loo yaqaano reliability, reliable iyo waxa loo yaqaano validity. labadan eray aan kala fahano, labadan eray hadaa fahamno waxaan fahmaynaa waxa loo yaqaano research quality. reliable waxaa la yiraahdaa inaad muujiso, reliable horta erayga macna ahaan u fiiri. weligaana ustaadow markii eray lagu sheego isku day eraygaasi ta macna ahaan inaad u fahamto. tusaale ahaan reliable waxaa weeyaan yani ku kalsoonaan weeyaan, inaad muujiso daraasadaada ilaa inteeba la eg ayaa lagu kalsoonaan karaa ama lagu tiirsanaan karaa. validity-gana waxaad ku sheegaysaa daraasadaada wadada loo mara ma ahayd wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay. inay ila fahamsina rajeynaya labadaas eray reliability iyo validity. markaan fahmno waxaan fahmay research quality. waxaan ku hormaraynaa marka hore la diyaariyaa reliability. reliability waxa weeyaan daraasad baad diyaarisa adiga,
daraasadan aad diyaarisay ma tahay daraasad lagu kalsoonaan karo, inaad muujiso see loogu kalsoonaan karaa, inaad caddayso. Mathalan, waxaad tidhi quraac baan diyaariyey. Okay, su-aasha lagu weydiinaya waxay tahay marka quraacda aad diyaarisay ma tahay quraac naga gooyin kartaa gaajadan haysa annaga. Mathalan, qof baa wuxuu kariyey 3 rooti oo kaliya, 3 rooti ayuu kariyey. 3 rooti markuu kariyey, qofkaas quraac uu kariyey sax? Haa. laakiin hadduu yidhaahdo rootigaasi waxaan ugu talagalay 300 oo qofood inay cunto, quraacdaas ma lagu kalsoon yahay? Laguma kalsoono. Sababta maxaa yeelay horta quraac wuu kariyey oo 3 rooti wuu kariyey, laakiin dadka ugu talagalay gaajo ma ka goonaya. Xataa 3 rooti 300 iska dhaafee 3 qofood xataa baahi kama gooynayo. laakiin asiga wuxuu sheegan karaa inuu quraac diyaariyey. inaa ila fahamtiina awgeeda tusaalooyinkan u qaadanaya. Reliability waxaa weeyaan inaad muujiso daraasadaad adigu diyaarisay ma tahay daraasad lagu kalsoon yahay ama lagu kalsoonaan karo oo boosas gaabkaas buuxisay, problemkaasi dhamaystirtay. anaga hadda waxaan diyaarinaynaa employee satisfaction iyo productivity. daraasadda anigu diyaariyay ma tahay daraasad ka qayb qaadan karta in shaqaalaha qanaacadooda sare loo qaado, si productivity-ga sare loo qaado. tusaale waxaan kusoo qaatay marka qof baa quraac kariyey. quraac wuxuu u kariyey 3 rooti uu kariyey. 3 rooti markuu kariyey wuxuu dhihi karaa quraacaan kariyey. haa, quraac waa karisay. quraacda maadaa cuni rabo misdada ugu tala gashay. horta quraacda karisay waa maxay? waa 3 xabo rootiya yaa ugu tala gashay 3 qofood, 300 oo qofooda ugu tala galay. quraacdaas quraac lagu kalsoon yahay miya? waa may. qof kale soo istaaga wuxuu yidhi anigu quraac baan kariyey. haye maxaa karisay marka? waxaan kariyey 2 kiish oo bariisa baan kariyey. 2 kiish oo bariis ayaa ugu tala gashay. waxaan ugu tala galay 2 qofooda ugu tala galay. quraacdaas quraac lagu kalsoon yahay miya? la. lianna cuntada oo kariyey waxay ka guda ballaaran tahay dadka ugu tala galay. laakiin qof hadduu yidhaahdo ka waran waxaan kariyey 1 kiish iyo bar oo bariis aan kariyey, waxaan ugu tala galay 300 oo qofooda ugu tala galay. waa suurtagal, wax suurtagal weeyaan. waayo 1 kiish waa 50 kiilo iyo bar, waa 75 sax, 75 kiilo oo bariis ah. 300 oo qofood way cuni kartaa, bal baahi way ka gooyin kartaa, bal waxay meel dhigan karaan soo hari karaa rajaynaya. marka idan marka fiiri, daraasadii hore waxaan sheegay 3 qofood, 3 qof wuxuu kariyey 3 xabo rootiya, 300 oo qof ugu talagala, suurtagal maaha. qof wuxuu kariyey 2 kiish bariis ah. yacni waa ina waxaad sameyday iyo baahidii iskeeni kartaa, ina ila fahantaan rajaynaya. reliability Allah. validity maxaa la yiraahdaa? validity waxaa la yiraahdaa daraasadan aad diyaarisay, wadadii aad u martay ma tahay wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay. ma tahay wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay. tusaale ahaan anaga saaki waxaan baaraynay qanaacada customer-kaan baaraynay oo Kai company aan baaraynay, soo maaha? waayo ciwaanka daraasadda bilowgeeda haddaa ila joogtay waxaa weeyaan employee satisfaction iyo productivity ahayd. waxaan ka qoraynay marka daraasadda waxaan u diyaarinaynay unit of analysis wuxuu ahaa Kai company, shirkadda Kai company aan u diyaarinaynay. adi guud ahaan shirkaddan aad u diyaarinaysay su-aalaha markaad weydiinaysid waa inay noqotaa relevant answer qofku siin kara. tusaale ahaan meeshii aad ka weydiin lahayd shaqaalahan shirkadooda, waayo shirkaddan qanaacada inaad baartaa rabtaa employee satisfaction-ka. shirkaddan shaqaalaheeda intaad baari lahayd inta ka baxday, ilma dugsi dhiganaya u tagtay, waxaa tiri ilmaha dugsi dhiganaya survey ka qaadayaaba. waxaa tiri shirkadda ma ku qanacsan tahay, ma ugu waxaysan tahay. waayo yacni qofkaad su-aasha weydiinaysa ma aha qofkii saxda ahaa. miila fahamtay? tusaale labaad, validity waxaa la yidhaahdaa waa research quality ay ka hadlaysaa. reliability waa soo fahmnay. quality waxaa weeyaan daraasaddan aad diyaarisay ma martay wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay. tusaale labaad aan qaadano, mid saddexaadna aan qaadano. su-aalaha labaad waxaa weeyaan magaalada muqdisho aan joognaa. magaalada muqdisho inaan ka baxno waxaan rabnaa inaan aadno hargeysa, inaan aadnaa rabnaa. hargeysa intay naga xigtaa, waqooyi bay naga xigtaa. bal kabar haddaana koonfur aadayna, kismaayo baan u soconaa, may hargeysa aan u soconaa. koonfur maxaa ka jirinaysaa? waa marka
daraasadda aad diyaarisay wadadii saxdeed ma u martay maada u marin markaasiti. tusaale labaad ugu dambeeya aan qaadano. tusaalaha saddexaad ugu dambeeya waxaa weeyaan validity waxaa la yidhahdaa daraasaddan aad diyaarisay wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay ma martay. walaalayaalo war intaas ka badan wallahi ma aqaano, laakiin waxaan rajeynaya inaad idinka kaafiyo reliability validity waxa la yidhahdo. tusaale ahaan marka qof baa wuxuu rabaa inuu shaax kariyo. shaax soo ma naqaano, shaaxa caadiga tiiga la cabo laga yaabee af soomaaligu iska goda balaarayaan dad kale inay wax u yaqaanaan, laakiin shaaxigu yacni ani shaaxa u aqaanaa. haddii luqad kale u taqaano waa gaarkeeda weeyaan, commentiga igu soo qori doontaa koley. shaahigu ama tii, shaahigaasiti qof baa wuxuu ku kariyey. soo shaaha laguma kari karo jalmadaa lagu kariyaa soo maaha. okay, qof baa wuxuu ku kariyey kawara digsi oo lagu karin karaa. qof baa wuxuu ku kariyey baaquli ama geedan shixnada yara lagu kaliyebo. okay, qof baa intaas dhan u adeegsanba. suurtagal ma tahay in shaax lagu kariyo baaquli bac lagu kariyo, bac khafiifta caadiga ma aragtay, ama bacda aan kusoo adeeganay caadiga ah. shaax ma lagu karin karaa? haa, waa lagu karin karaa. bacbacle qofaa shaah ku kariyey, suurtagal ma tahay? haa. fiili marka meesha loo wada socdo waa hal meel, laakiin qofkaaniiti bacbaclaha shaaha ku kariyey shaax ma kariyo mise wuu kariyey shaax, laakiin muusan marin wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay. validity ma la fahmaysaa? haddaad daraasad diyaariso wadadii loogu talagalana aadan marin, macnaha waxay ka dhigan tahay in daraasadaasi quality-geeda aan lagu tiirsanaan karin. marka validity-na taasaa loo yaqaana. marka labadaasaan kala muujinayna. af soomaaliga meesha ku yaalna koley waa midaad malaha akhrisan karta weeyaan. labadaasaa kala muujinaysaa. marka waxaan ku hormarayaa marka intaan yarta iisoo qadarto control c e dheh, inta imaaw control v ku dheh, dana laabo labadan soo qaad. intaasoo era marka waxay sheegayaan validity reliability sharxayaan bas leh inaan caddayno labadan daraasadood faa'iidada ay kala leeyihiin. kow waxa uu dhahay fiiri reliability iyo validity waxa weeyaan waa labada tuule essentialka u ah in la gaaro positivity yani dhanka astaanta ama positiveka in laga fiiriyo cilmiga. ereygaas epistemology waxaa loo yaqaano waa cilmi lee keliya. okay, reliability maxaa la yidhahdaa? job ninka loo yaqaano labada gul wuxuu caddeeyay reliability, wuxuu yidhi waa ballaarinta in la ballaariyo resultiga oo inta badan mar walba soo laabanayo kuna soo laabanayo maxay accurate representative, yani inuu mar walba ka tarjumayo wax loo yaqaano total population, taasoo andal reliable ah. haddii marka fiiri resultigeena oo ah sheeg resultiga daraasaddaneti can be produced under similar methodology loo soo saaro, yani waxaa loola jeedaa intaan ila qeex fiiri reliability waxaa la yidhahdaa haddii wadada maanta aad martay haddii mar labaad la maro natiijadaada kale ma la keenayaa. tusaale waxaan kusoo qaadanay shaax baa waxaa ku andacooday shaaxi baa waxaa ku samaysay bac. haddii mar labaad qof kale uu tijaabiyo uu yidhaahdo shaaxaan bacbaclaa ku karinayaa ama bacdaa ku karisaa ku karinayaa, shaax ma soo saaraya. reliability loo yaqaana, waa lagu kalsoonaan karaa. aan ku celiyo, qof baa wuxuu yidhi bacbacle soo marnaan waa qararaclaha yariiska oo lagu keeno biyaha caafiga iyo biyaha iisheeg yani coca-colada fahamtada ee ku jirto weeyaan. waa bacbaclaha caadiga ee caaga plasticada ka samaysan. blasticadaas haddii biyo lagu shubo, qofbaa biyo ku shubay jalmad wuxuu saaray dabka, shaax buu ku kariyey. waa suurtagal, waa lagu karin karaa. qofkaasiiti wuxuu ku andacooday shaahan wuxuu yidhi anin jalmad kuma soo karin ama kirli kumaan soo karin, digsi kumaan soo karin, waxaan ku kariyey bacbacle. bacbaclahaasiiti ama qararaclahaasiiti uu ku kariyey haddii qof kale uu adeegsado suurtagal ma tahay inuu isla shaax soo saaro? haa. qof kale wuxuu yidhi bac baa shaah ku kariyey, bac sooma naqaano. bacdaasiiti markuu shaaha ku kariyey haddii mar labaad la adeegsado ma la soo saari karaa. reliability marka waxaa loo yaqaanaa fiiri if haddii resultiga daraasaddaneta lagu soo saaray haddii similar methodology haddii la maro
natiijada ma lasoo saari karaa haa then researcherka marka instrumentigu isticmaalo maxaa waaye to be reliability waa lagu kalsoonaan karaa sidaa awgeed researcherka instrumentiga u adeegsada waa lagu kalsoonaan karaa war cadaaday to increase marka si loo koro reliabilityga of this daraasadaneti marka yacni ko waxaan adeegsanay questionnaire laakiin questionnaireka ka hor intaan questionnaire adeegsan waxaan adeegsanay team baan la shaqeeyay ama aan isla shaqeynay teamkaasi waxaan adeegsanay wax loo yaqaan pilot test waxaa la yiraahdaa ma aragtay jaamacadda adigoo fadhiya warqad in lagu keeno yiri warqadan ii buuxbuuxi arday ma ku dhayn weli waa survey ama wax loo yaqaan questionnaire caadi ah weeyaan intuusan xarunta tegin ka hor wuxuu sameeyay wax loo yaqaan pilot test warqadaas markii yirista wax loo yaqaan pilot test marka wuxuu yiri pilot testigaas waxaan ku sameeyay yiri natiijo aan ku sameeynay waxaan la sameeyay waliba professorka oo nugula jiray teamkeena kadib wuxuu yiri janjeedi waxyaabihii uu ku sameeyay testigaas naga soo baxana waan soo qaaday marka wuxuu yiri ko waxaan adeegsanay questionnaire instrumentiga adeegsanay maxaa waaye questionnaire horena waa usoo sheegay questionnaire adeegsanay questionnaire-ka intaan adeegsan ka horna waxaa adeegsanay wax loo yaqaan pilot test that's why marka natiijada noo soo baxday waa mid lagu kalsoonaan karo aan ku celiyo job ninka loo yaqaan wuxuu noo qeexay reliability maxaa la yiraahdaa wuxuu yiri reliability waxaa la yiraahdaa haddii population-kan instrumentiga loo adeegsado haddii mar labaad loo adeegsado isla natiijadii la soo saaro then researcherskaas instrumentiga uu adeegsado waa mid lagu kalsoonaan karo intaas waxaan ku qeexayaa kaliya reliability-ga annaga marka buugga markaan qorno waxaan dhahaynaa ama aad leedahay si aan usii kordhiyo waxa loo yaqaan reliability-ga daraasadaneti questionnaire adeegsaday questionnaire intaan adeegsan ka horna pilotkaas adeegsaday intaasna waa fahmna aan ka tago validity-ga maxaa waaye validity-ga waxaa weeyaan wuxuu yiri waxay go'aaminaysaa marka laga soo tago validity-ga waxay go'aaminaysaa researcherskan ma loo adeegsaday true measurement-igi loogu talagalay true measurement maxaa waaye sifadii saxda ah wixii instrumentiga waayo measurement-iga waxaa jira questionnaire wuu jiraa test wuu jiraa waxaa jira wax loo yaqaano survey observation mid walba ma loogu talagalay wadadii uu saxdeed ma loo maray haddii wadada saxdeed loo mara maxay researcherskaas maxaa waaye waa mid yani dhammaystiran ama loo gaari karo maxay yani mid lagu tiirsanaan karo iyo mid saxa wadadii loo maray la aqbali karo weeyaan intaas aan ka tagno hadda maxaa noo dhima marka fiiri taada gadareed 1.7 aan marayna maasha allah waan dhaqaaqnaba taada gadareed procedure waxaa weeyaan xogteeni markaan soo aruursanaynay inaan caddaynaa nagala doonayaa waa qaybta 7aad ee jabtarka 3aad ee daraasadda taasi oo cilmi baaruhu ku caddaynayo halka uu ka helay guideline-kii adiga ku hagayay iyo waxa loo yaqaano ii sheeg instruction letter-kaaga iyo waxyaabaha sitee ku cadaynaysaa hadda ka dheer procedure yaa ku siinaya weeyaan intana waxaa ku cadaynaysaa waa kanaa procedure-ka adeegsatay markaa daadadaada sameynaysay ayaa intana ku sheegaysaa see u cadaynaya marka tusaale ahaan waa kan fiiri first marka ugu horeyso wuxuu dhahay ardaygan wuxuu dhiganaya jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku taalo dhiganayay waxaa sheegaysaa procedure-kii dadka ku hagaya sheegaysaa waayo jaamacadaada waxay ku siin doontaa wax loo yaqaano guideline ay ku siinaysaa guideline-kaas wuxuu ku sheegayaa daraasadda xilliga laga doonayo wuxuu ku sheegayaa xilliga laga rabo inaad soo gudbisato wax loo yaqaano ii sheeg topiga ciwaanka supervisor-kaaga maalin bay ku soo dejinaysaa maalinba supervisor kadib wuxuu ku sheegi doonaa procedure-ka wuxuu xilliga chapter 1 u gudbinaysid wuxuu ku sheegi doonaa xilliga chapter 2 u gudbinaysid saddexa chapter xilliga u gudbin doontid ilaa iyo yacni intuu ku hagayo uu ka dhamaanayo maalinta ugu dambeysa waxaa lagu soo dejinayaa xilliga maalinta aad saxiixa ka soo qaadanayso supervisor-ka xilliga saxiixa ka qaadan doonta dhiinka way meelo saxiixa doonaan baa jira waan arki doonaa waxa ugu dambeeya waxay tahay maalinta panelka oo difaacashada buugga lagu soo deji doono idan time-kaasi lagu xadidaya marka waxa loo yaqaan marka data gathered procedure loo yaqaan wuxuu yiri marka ardaygan first marka ugu horeeyay cilmi baaraha ama anigaba waxaan helay instrument letter baan helay oo waxaan ka helay jaamacadda University of Somalia aan ka helay taasoo loogu talagalay maxay researcher-ka loogu talagalay inuu ku caddeeyo ama uu ku la qabsado maxay
waxyaabaha laga doonayo ka jawaabayaashiisa respective respondenteska. Researcherka was obtained wuxuu haddana sidoo kale helay waxa loo yaqaan research assistance buu helay kaasoo ka caawinaya daatada soo aruurinteeda iyo waxyaaba lamid ah. warcad maahno okay wuxuu yiri marka diiri inta lagu gudiyo daatada inta aruurinaya researcherka sidoo kale wuxuu dadka weydiinayay inay saxiixaan informka ay saxiixaan taas dabadeedna waxay helayeen instructor letter wuxuu ka helay office-ka. sidoo kale haddana researcherka wuxuu codsaday member of population buu codsaday inay u buuxiyaan questionnaire-ka marka buuxiyay questionnaire-kaas wuxuu ka dooray wax loo yaqaan ambiance iyo honesty oo ka buuxay oo daacadnimo iyo waxa ka buux waxa aad la'aan waa ka buuxday. sidoo kale wuxuu codsaday inuu ka jawaabayaasha ay ka jawaabaan si naxariis leh ugu jawaabaan dhammaan su'aalaha. sidoo kale researcherka neti wuxuu saxay ama uu dib u fiiriyay oo jeekin gareeyay dhammaystirka dhammaan su'aalihii laga rabay inay ka jawaabaan. idan waxaa sheegaysaa researcherkaaga waxyaabaha aad u samaysay kow inaad warqad heshay, warqadda markaa heshay kadib waxaa heshay qof assistance baa heshay. assistancegaas markuu ku caawiyay kadib inta lagu guda jiro haddana waxaad dadka ka jawaabayaasha ama kala qayb qaadanaya daraasadda jaamaca oo ka shaqeynayay kambaniga kai ee 61 qofood ahaa waxaa si naxariis leh ugu codsaday inay buuxiyaan sidoo kale haddana ay saxiixaan. sidoo kale warqad kale waxaad ka heshay yani waxaad sheegaysaa kaliya procedure-ka aad soo martay aad ku cadaynaysaa. 1.3 soo maaha waa kana 1.8 waa kana 1.8 waxaa sheegaysaa waa qaybta 8aad ee jabtarka 3aad ee daraasadda taasi oo cilmi baaruhu ku cadeynayo aaladda ama software-ka uu adeegsanayay inuu ku lafaguro xogta uu ku kala saarayo. bal ayadana aan fiirino waxa aad ku sheegayso waxa ku sheegaysaa waxay tahay marka xogta aad diyaarinaysay software waxaa jira la yiraahdo SPSS ma adeegsatay ama IBM magaca waa loo yaqaanaa ma mid kale adeegsatay yani ina cadaysa adiga xogtan waxa aad ku lafagurtay aad go'aanka ku qaadatay waayo marka waxaan soo qaadato jawaabahan go'aan ma qaadan kartid waayo maxaa go'aamiyay inaad go'aan qaadato. tusaale ahaan fiiri 10 arday baa imtixaan ka qaaday 10ka arday waxaad tidhi hebel wuxuu galay kaalinta koowaad hebelna wuxuu galay kaalinta labaad hebelna wuxuu galay kaalinta saddexaad ilaa kan ugu dambeeya aad sheegtay yaa kuu sheegay go'aankaas ah inuu hebel kaalinta koowaad galay waxa kuu sheegay waxay tahay natiijada uu asiga keenay. idan marka waxay tahay xogtaada marka aad soo heshay waxaa jira marka waxyaabo aad ku lafaguraysay idan marka waxaa sheegaysaa ma waxa adeegsatay statistics-ka ama wax loo yaqaano software-ka loo yaqaano maxay waayo data analyze waa moogtahay xogtaada marka la faguraysay waxaa u adeegsatay waxa loo yaqaano statistical baggage and social science oo loo soo gabay SPSS versionkiisa wuxuu yahay si sheegaysaa kaasi baa waxaa leedahay measure si loogu cabiro the degree heerka xiriirka ka dhaxeeya employee satisfaction and organizational productivity ee loo yaqaano Indian Ocean ee ugu taal inta waxaa ka dhacdaa Kai Company ina ila fahamteen rajaynaya ee Muqdisho Soomaaliya. يعني horna waan kugu sheegay chapter 3 ga cilmi fara badan oo aad raadin doonto ma ku qorno waxa ku qoran kaliya ina tusaalahan hadda fi SPSS da adeegsatay intan hadda waa qaadan kartaa meeshaadna waa ku diyaarsan kartaa. sidoo kale 1.9 iyo la fiirna 1.9 ka iyo 1.10 ka labadaas waa laba kala muhiim ah. مثلا 1.9 كانوا كل waxa ku sheegaysaa wax loo yaqaan ethical concentration waxyaabihi yani hab dhaqanka aad adigu adeegsatay ethical concentration waxa kamid ah markaad buuga qoraysid waxaa jira caqabad fara badan aad la kulmaysid oo ay kamid tahay supervisor-kaaga kala dabeecadihiisa. مثلا marka qaar buuga supervisor-kaaga kale inuu kugu xanaaqiyo oo buugaaga jeexjeexa marka qaar wuxuu ku leeyahay iga bax galaaska fasalka iga bax wuxuu ku leeyahay xafiiska iga bax wuxuu ku dhihi karaa dadka aad adigu su'aalaha weydiinaysa dad iska dabeecad yar xunaa ku jiro way kugu qeylin karaan qaarkood kugu candhuufi karo qaarkood baa biyo kugu shubi karaa. sidoo kale buuggan inta loo yaqaan hagaha cilmi baaraha waxaan kugu siiyay qayb labaad ama qaybta labaad isheeg cutubka 3aad waxyaabaha laga doonayo chapterka labaad waa maleynaya waxaa jirto chapterkaas wuxuu ka sheekeynayaa waxyaabaha laga doonayo cilmi baaraha oo ay kow ka tahay inaad dulqaad badan tahay
inaad dulqaadataa lagaa rabaa, aada xanaaqin. Dadka qaar way kugu canuufayaan, dadka qaar shaahay kugu kordaadinayaan. Qof baa waxaa laga yaabay shaqaalaha, gabar baa maanta waxay ku leedahay niyow maanta su-aalaha hay weydiine beri ii imaaw. Beri markaa u timaado waxay ku leedahay ii sheeg ilaahay kuma dana beri dambe ii imaaw, inaad xanaaqina lagaa rabaa. waxaa laga yaabaa maamulaha inuu ku yiraahdo maanta ha ii imaan beri ii imaaw. Beri markaa u tagto waxaa laga yaabaa subaxdii intaada u tegin kahor in lagu qeylsho, madaxda ku qeyliso, waxaa laga yaabaa uu xanaaqsan yahayba. Markaa u timaado kor mid kuu sheegaa walaalow iga tag bilaahi, yacni xanaaq iyo caay aflagaad inay kala soo kulanto, inay xanaaqda lagama rabo. Idan ethical considerationka waxaa ku sheegaysaa waxyaabaha habdhaqanka quruxda badnaa ee aad adeegsatay. Fiiri, waa qeybta 9aad ee chapterka 3aad ee daraasadda, taasi uu cilmi baaruhu ku sharaxo sida wacan ee aadaabta ku dheehan tahay ee uu ula macaamila dadka ama bulshada uu xogta ka rabo. Way la fahantaa umaleynaa marka, bal aan fiirina marka muxuu yidhi ethical considerationka markaa joogto waa kana mujida ethicalka meesha anaga hadda nooga meeshan 10 nooga yahay noo soo koobiyey inta noo keen, laakiin 10 hanoo ahaadaya, yani waa inuu kan ugu dambeeya noqdaa. waxaan ka hormari doonaa qeybta kale 10kiisa noo wato. wuxuu yidhi fiiri, in this daraasaddaneeti iyadoo maanka lagu haayo ethical issue, iyadoo maanka maskaxda lagu haayo, researcherka wuxuu gudbiyaa luu yidhi uu u gudbiyey nimanka loo yaqaano jawaabayaasha ama waxa loo yaqaano populationka, wuxuu u gudbiyey necessary information, warbixino caalamiya ama warbixinana lagama maarmaan u ah, yacni main purpose of the researchka. yacni qofka marka uu tegayso ha iskaga tegin, ha iskaga cararine, weydiiyo u sheeg. waxaad tidhaahdaa anigu research baan ahay, arday jaamacad dhigtaan ahay, macluumaadka noocaasaan doonayaa, walaalina iga caawisaa rabaa. kadib yacni wuxuu ku siinayaa wax buuxo. marka intaas u sheegay buu dhahay, wuxuu yidhi marka expected durationka iyo waxyaabihii procedureka aan adeegsanaya waxaa sita u sheegay iyo natiijadan ka leeyahay, and be positive iyo yani position to keep privacy. qofkan sidoo kale markaa u tagto waxaa u sheegaysaa inuu hadalkiisa private u noqon doono. tusaale ahaan fiiri, shaqaalaha waxaa baaraysaa employee satisfaction, qanaacadooda baaraysaa. hadduu ku dhow ka warmaqa new kambanigan kambani xun waayey, ilaahay kuma darnaaday lacagta ciyo mana siinayo, waa nagula qeyliyaa, yani waxay ku dhaqmaan ii sheegay discrimination ku dhaqmaan. dhibaatadaas uu kuu sheegtay haddii aad magaciisa kor ku qorto tirahda ka waran warkan Saacadiya ay dhahda ama Naciima ay dhahday, dee waxaa laga yaabaa in shaqada laga racdaya laga yaabaa ama lagu dhibaateeyo. yacni qofka maxanku waxa u sheegay jawaabta uu ku sii doono inuu jawaab saxa ku siiyo, magacaaga ma sheegi doono, wax walba xogtaada waa dhoori doonaa, yani waxyaabahaasaa leedahay. idan marka wuxuu yidhi marka iyo sidoo kale iyo disclose to confidential, yani qofka kalsoonidiisa sidoo kale in istaa lagaa rabaa, iyo sidoo kale research responsibility-ga waxaa leedahay marka waxaas mas-uuliyadda anaa leh, magacaaga ma sheegi doono, walaalay ama walaalow xogtaas noocaasaan kaa rabaa. idan employeegan shaqaalahan qanaacadiisa waxaa kor loogu qaadi karaa inuu dhab ahaan kaaga sheekeeyo marka, laakiin asigoo qanacsaneen baa waxaa laga yaabaa inuu kaa shakiyo, kadibna uu ku yidhi abu meeshaaniti meel kala kacsan waaye, shaqada way fiican tahay, waa uu shaqadiisu ilaasanaya sax. idan marka ethical consideration kaasaa loo yaqaanaa. midka 9aad waxaa weeyaan ethical limitation inaad sheegtid. waa kana ethical limitationka waxaa weeyaan asigan hadda arkaynaaye, waxaa weeyaan limitationkan caqabadihii kaa hor yimiday intaad daraasadan diyaarinaysay. caqabadaha diyaarinaysa maxaa kamid ah? waxaa tidhi caqabadaha waxaa kamid ah inta lagu guda jiray daraasaddaneeti here and some of challenge baa jiro, halkan inta some challenge oo researcherka uu la kulmay baa jiro. maxaa kamid ah? kow waxaa kamid ah leedahay maysan jirin leedahay available public library maysan jirin. yacni macnaha ma aha limitationka inta ku qoran inaad hadda qaadan karto, haddaad doonto waad qaadan kartaa, laakiin waxaa fiican mathalan hadda aniga markaan qalin jebinayno oo kale ama ardayda qaar oo kale markay qalin jebinayaan jaamacadda, hadda tusaale ahaan oo kale 2020ka ardayda qalin jebinayso kale waxaa caqabad ka haysatay coronavirus oo kale, waayo guryaha lagama soo bixinin, xarunta ma tegi kartid, kaasoo kale wuxuu leeyahay dhibaatadaas ay haysato. hadda kale ardayda diyaarinayso transportationka kale aad uga adag, waayo shidaalka qaaliyoobay. waxay ku leeyihiin yani hadda waxaan ognahay in bisha 3aad marayno 2022
yani wadanka Ukraine yani in Ruush uu ku duulay. That's why marka maadaama uu ku duulay shidaalkana uu qaaliyoobay, hatta waxaa laga yaabaa inay caqabad kugu tahay marka inaad transportation-kana dhibaato kugu noqdo. meeshii $1 mootada looga raaci jiray in maanta $3 looga raacayo. taasoo kale waa sheegaysaa, waxaa leedahay limitation-ka ka mid tahay waxyaabaha yani ku caaqa iyo ku challenge gelin jiray. qofkan hadda wuxuu yidhi tusaale ahaan oo kale ma jirin public library muusan jirin oo aad buugaag ka helaysid. sidoo kale muusan jirin, waxaa jira lack of enough time, waqti ugu filan aan research ku sameeyo maan haysan oo yidhi. waxaa kaloo jiray some response yani ka jawaabayaasha qaarkood yani maysan rajaynayn inay bixiyaan maxay proper answer, su-aal ku habboon inay bixiyaan. taasi marka waxay keenaysaa in su-aal un iska dhiibtaan. waa fahantaa umaleyn marka 9 qeybood saasaan uga baxnaa deertaan. haddii wax caqabada ay jiraan ama wax kale oo jiro waad ila soo xiriiri doontaa ama commentiga. intaas waxaan ku gabagabeynayaa oo codsi idinkugu weydiinayaa challenge-ga yani ii sheeg yani waxyaabaha caqabadaha ka hor imaanayo badankiisa inaad gacanta u taagtid oo adiga aad qabatid. haddii aad qaban weyso kadibna aad anaga noo soo waxayso. hadda marka waxaa noo dhiman qoladan inta loo yaqaan instructionkana waxaad doontaa gashan kartaa, wax ceeba ma lahan. مثلا jabtarkan wuxuu ka hadli doonaa 9 qeybood, wuxuu ka hadli doonaa research design, uu ka hadli doonaa target. bal horta aan sameyno yani war noocan aa gashanaysaa. waxaa leedahay 3.0 markaa dhahdo ma aragtay, waxaa leedahay introduction EQBA. marka waxaa leedahay the chapterkan wuxuu xooga saari doonaa sectionada soo socda. waxaa kamid ah research design, target population, sample procedure, research instrument, sidoo kale wuxuu xooga saari doonaa research quality, wuxuu xooga saari doonaa research quality. markaan dhahnay hadda meeqaa maraynaa, waxaan maraynaa 1 2 3 4 5 6 maraynaa maaho. waxaa kamid ah data procedure kamid ah ama data analysis data analysis. waxaa kamid ah data procedure somaha. data analysis markaa sheegnay, data analytics markaa sheegno waa qeybta 7aad waaye. data procedure waa sax, procedure. kadib waxaa leedahay limitation laga hore rajeen, laakiin hadda waxaan maraynaa 1 2 3 4 5 6 7 maraynaa 8 iyo 9 waxaa waaye limitation and ethical consideration. waa iska tusaalo aan kor ka qorayo. internet kale saanoo kale u muujinaysaa marka ma mushkil. internet kale markaa ku cadayso hada billahi tawfiiq. laakiin koo hoos aan tagna aan fiirinaba research analytic markaa sheegnay data procedure ka horeeya marka oo zaman ah, laakiin say u kala horeeya muhiim inaan u qorno muhiim. data procedure data analytics waxaa horeeyo data procedure horeeyo. فهمت أمري أمريكا. هذا ترتيجي نساس وكل ديارسين يا أبو. يعني إلى فهمت رجيني أمريكا. أنت أنا مد أن أسوي ذقادني هذا وبالله التوفيق وبالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.